dilaaga saxafiga waa barnaamij gaar ah oo aan ku eegi doono silsilo soo taxnayd muddo oo lagu ugaarsanayay wariyaasha taasoo uu dhexda ka hayay xasan xanafi xaaji oo ahaa markiisii hore wariye ka soo shaqeeyay idaacado ay ka mid tahay idaacaddii maxalliga ahayd IQK ee muqdisho oo markii dambe ka mid noqotay idaacadihii al-shabaab lelaqaysteen xasan xanafi xaaji cabdisalaan waxa uu noloshiisa inta badan ku soo dhex qaatay al-shabaab waxaana uu ka mid yahay horjoogayaasha ugu caansan kooxdaasi marka loo eego tacadiyada ay geysteen waana shakhsigii kala shaqayn jiray kooxda ugus ee kis al-shabaab dilalka wariyaasha soomaalida ah haddaba xasan xanafi waa kuma isaga ayaa noo sharaxaya qayb ka mida noloshiisa magacaygu saddexaan waa xasan xaaji xanafi xaaji cabdisalaan taariikhdayda anuu sida cad waxaan ku dhashay magaalada muqdisho caasimadda soomaaliya waxaan ku soo barbaaray isla magaalada muqdisho dadku gobolladu tagtago marka laga reebo inta yar oo hawshii nimankaas kolley shabaabka laaya aan la waday oo aan gobollada soomaaliya dhinacaan u aadayay marka laga reebo inta kale waxaan ahay nin reer muqdisho ah muqdisho ku wax bartay dugsigayga hoose dhexe muqdisho ku dhammaystay sare muqdisho ku dhammaystay jaamacad ka mid ah jaamacadaha soomaaliya maxaanka ku yaala garaano muqdisho ka wax bartay sanadii 2003 dhammaadkii bilowgeedii ayaa waxaan ku biiray raadiyo muqdisho codka shacabka oo markaas uu maamulayay injineer xuseen maxamed ciidiid dabadeeto 2 bilood kadib waxaan ku biiray إذاعة القرآن الكريم IQK إذاعة القرآن الكريم كا دكتور الشيخ محمود قيلة ودوميكاها من الخير ديالنا لها انتس مركان كبيرة إذا عدوا إلا لابد أكون إيو لحدي أما تتغذي أيراده وعن لشقيني وباهنتا IQK أنا يقول سلا إنا عكلا كودي هو الشرح لشقينتا نمانكاس نوحان أنا وأهم سنة وها الشقدي دي أهوتو xilliyada shaqadu aan ka madax banaanahay oo aan shaqada ugu soconina in aan iyagii aado ayaan isku wadi jiray labada shaqo maadaama jumcada kale idaacadda quraanka waxay ahayd min laga shaqayn jiray marka laga reebo barnaamij aan ka lahaa oo jumcada nasashada jumcada la dhigi jiray oo soo gali jiray fiidkii hal saac 2 saacna ka bixi jiray marka laga reebo inta kale jumcada laga shaqayn jumcadii xaqaan aadi jiray maalmaha kale reporter aan ku bilaabo shaqadii inta marka warkayga kaansado ayagaan aadi jiray sida ayaa ku isku shaqayn jiray labada dhinac sida ka muuqatay baa xog badan horay aan wada ogeyn ana xasan maqalkiisii ugu horeeyay waa marka halkaan aan imid raadiyo muqdisho gaar ahaan kiisas aniga horeeyo rag badan oo saaxiib oo halkaan ka shaqeynaya lagu dilay ugu horeeyay Allah u naxariistay abkay kiiska lagu dilay maqalkiisa waa markii ugu horeysay aan maqlay waxaan markii aan maqlay in kiiskaas qof ku lug lahaa oo nimankan dadka dhibaateeyo oo dadka dila inuu ka mid yahay markii aan maqlay ana hada sawirka aan ka qaadanay waxa uu la mid ahaa sawirka aan ka heystay dhamaan nimankaas guud ahaan waa anigu hal sawir oo dadka dad dila oo aan naxariis lahayn sawirka aan ka heystay oo ahaa sigana kaas baan ka qaatay cabsida ay ka qabaan xasan xanafi wariyaashu waxay tahay inta la eg oo ay ka cabsanayaan al-shabaab mid la mid ay ka cabsanayaan aniga xasan xanafi aqoon uma lihi mana aanan aqoonin laakiin maqal ayaan ku maqlay waxaana ku aqaanaa oo aan ku maqlay inuu yahay nin u qidmeeya al-shabaab shirqol iyo marino u maleega wariyaasha Soomaaliyeed waxaan ku maqlay inuu dilal qorsheysan ka soo bilaabay wariyaashii waaweynaa ee Honafriq Mahad Axmed Cilmi iyo ninka la jiray Cali Imaan Sharmaake ilaa ma dilalka ay ka yimaadeen in wariyaasha baabuur lagu horjarto ama kali loo dilo oo mid loo shirqooshana waxaan ku maqlay in xasan xanafi team uu hogaamiyo oo dhowr wariye ah wariyaasha ku dhex jiray oo dhexdooda marina ka abaabulayay oo shirqool u dhigay inuu ka mid ahayo hormuud oo yahay asiga iyo team la yiraahdo Yunus Jibriil nin kale la yiraahdo Stilla waxaan ku wada maqlay dhamaantood rag u qidmeeya al-shabaab oo shirqoole wariyaasha oo u maleega dabino lagu dilo wariyaasha waxaa la ii sheegay in rag badan oo wariyaasha dalka joogay gaar ahaan raadiyo muqdisho uu dilay waxaa la ii sheegay abkay ninkii la oran jiray ee u shaqeynayay raadiyo muqdisho markuu qabtay buu hore ka soo hadlay isagoo wali dilin abkay baan haynaa waana dilaynaa buu yiri meedkiisa soo doonta
rag idaacadda baa ka qabtay oo codkii ka duubay kadibna meydkii baan doonana soo qaadanay xasan isagoo wariye ah ayuu sidaad maqlayseen muddo ka mid ahaa ururka al-shabaab inkastoo markii dambe ay bilaabatay tuhumo la xiriira howlaha u qarsan waxaana uu xasan markii uu dareemay in loo tuhmayo howlihiisa al-shabaab uu iska aruuriyey warbaahinta isagoo si rasmi uga mid noqday ururka al-shabaab oo ka soo qabtay xilal kala duwan waxaa shaqadeeda igu dhiirigeliyey oo aan ku biiritaankeeda sabab u ahaa in la yidhaahdo aadan xaashi faarax cayrow oo isaguna diyaarada dagaalku maraykanku ay ku dileen magaalada dhuusamareeb caasimadda gobolka galgaduud ee gobolada dhexe soomaaliya sannaddii 2004 aakhirkeedii ayaanan ka mid noqday rag maleeshiyaad ah oo lagu abaabulayey meel ay ula baxeen mucasirka salaaxudiin oo ahayd khabuurihii talyaaniga oo ku yaala degmada hiliwaa degma-aan inay tahay ayaan rajaynayaa dabarka dambe isbitaalka ay ku taallay dabadeeto in muddo ayaan la shaqaynayay dagaalkii waxaa bilowday la dagaalanka ururkii isbahaysiga la dagaalanka argixisada iyo u dhexeeyey midowda maxkamadaha islaamiga oo ay qayb ka ahaayeen raggaas oo markaas shabaab iyo loogu yeereeyey magaca jiil jadiid iyagoo kale ah 3 baarti oo kale ah baarta uu hogaaminaya aadan cayro oo meesha saldhig u ahaa baarta uu hogaaminayay sheekh cabdullaahi mukhtaar oo hadda dowladda soomaaliya ka mid ah iyo baarta kale uu hogaaminayay wadaadkii la dhihi jiray sheekh xasan turki inuu geeriyooday intaa xabsiga ku jira lagu sheegay magaalada kismaayo inuu ku geeriyooday ilaahay kuma darnaadee ka mid noqoshahii ururkaas iyo ku dhiiritaankaygii iyo howlahaygii anagoo wata ayaan xaggana tegi jiray iyadoo markaas ay ku xirnaayeen raggaas muddo kooban lacaga ay ka heli jireen rag ganacsato ah ama rag ay iyagu u aaminsanaayeen in ay diinta u gargaaraan oo shirkada qaar ay lahaayeen maxaan ku radaa raggaas qaarna rag dibad joog ah qurba joog ayay ahaayeen dabeeta anigu waxaan ka mid ahaa dhabtii raggaas salariga qaata ama mushahriga ah aniguna waxay ku tabaruci jiraan naftayadii iyo maalkayagii gey jiray isla meeshaas in la yidhaahdo macna shacbaan oo isagana ku dhintay meel la leeyahay gidisoor oo dalkacyo agteeda ah ayaa igala wareegi jiray hawshuna sidaas ayaa uga mid noqday 2007 bilowgeedii ama bishii 3aad aan idhaahdee ayaan si dhab ah ugu maxaan ku radaa ishaag biiray al-shabaab markii la shaaciyey dabadeeto ayadoo amiir guud loogu magacaabay ninka la dhihi jiray axmed cabdi maxamuud godane oo markaas isku magacaabayay sheekh mukhtaar cabdiraxmaan abu zubayr war sida iyagu u yeereene dhabtii wada shaqayntii muddo kala duwan kadib waxaa layga mid dhigay maktabka iclaamka ama warfaafinta warbaahinta xarakada shabaab mujaahidiin anigoo markaas mas-uulayga dhigay dhanka xiriirka bulshada ama warbaahinta madaxa bannaan iyo tan al-shabaab markaas wargeys la aljihaad iyo website la yidhaahdo aljihaad .com ama .net labaduba ahaa xiriirka ka dhexeeya afayeenada hadlaya iyo waxa xarakiga ah ee soo baxayo iyo cidda loo gudbinayo iyo sida loo kala maareynayo mas-uul kaga noqday markii koowaad al-shabaab markaan ku biiray waxaan ka mid ahaa maleeshiyada diriirta oo magaalada muqdisho qoryaha ku sigata howlgal gaar ah oo ay qaban jireen ma jidho marka laga reebo ilaahay kuma darnaadee in maxkamaduhu golay midowga maxkamadaha islaamiga soomaaliyeed wax la yidhahdaa jiri jiro 9 maxkamadood ay ahaayeen oo gudoomiye president madaxweyne shariif sheekh axmed oo madaxweynaha hadda soomaaliya xasan sheekh ka horreeyey maxaan ku rahdaa isha uu gudoomiye ka ahaa soo way caawin jireen iyaguna howlahooda gaarka way fushin jireen meeshaas ayaana xarun u ahayd dadkaas ayaan ka mid ahaa meeshaas ayaa qoryaha laygu tusi jiray waxaa kaloo saldhig caafimaad u ahayd oo meelay ka duulaanna u ahayd markaas la dhihi jiray ubay ibnu kacab oo ku yaala isagana isla degmada yaaqshiid dhabarka dambe shirkadda la yidhaahdo warshadda baastada ayay maxaan ku rahaa saldhig u ahayd caafimaadkooda uu ka duuli jiray howlahooda uu ku wada jiray markashu sawirka guud marka la bixinayo waa meel markas ah oo ay dadku ku wax bartaan laakiin sawirka gaar ahaaneed ee meesha ku jira waa meel rug caafimaad u ah al-shabaab shaxsadaar aweysana gudoomiye ugu magacaabnay asaana markaas fadhi jiray xafiiska ubay ibnu kacab sidaas ayayna labadaas saldhig ayayna ku lahayn muqdisho cabdullaahi macalin mukhtaar dhinacaan degmooyinka yaaqshiid iyo cabdicasiis shibis boondheer dhinacaan adigu reerihiis ay degan yihiin ayuu asagana ka shaqayn jiray
marka ragga kale reer maxaan ku raadin turka xasturkina dhinaca jubbooyinka jira waxa ka dhaxay waxay ahayd inay isku gurmadaan qoladii culays la soo saarno qolada kale ay u gurmato intaas baa ka dhaxay siiraad laakiin kala amiira ay ahaayeen dad badan fikir kama haystaan sababta loo ugaarsado wariyaasha laakiin xasan xanafi oo loo haysto dilalka wariyaasha intooda badan ayaa sharaxaya sirta ka dambaysa qaarajinta wariyaasha Soomaalida maanta Muqdisho warbaahinno fara badan ka jira idaacad fara badan ka jira telefishinno fara badan wakiilo ka sameeyay Muqdisho shabaab dadka dhan ama wariyaasha dhan waxay u xukumayeen xukun gaalnimo waa ku celinaya gaalnimo laakiin salaad si u kala horeeyay loo dukadaay Soomaalidu tiraahdaa maanta cid shabaab ay cadawtooyada kala dhaxeeyo waa dawladda federaalka Soomaaliya iyo ciidamada caawinaya AMISOM inay nabadda noo ilaaliyaan u yimid Soomaaliya waxa aan brief gareysanahay oo aan aaminsanahay waxay tahay nimankaas maamin Muqdisho ma joogo wariyo ilaa inta la shaqeeyay mooyee inta kale waxa ay ka aaminsan yihiin in xukun gaalnimo ay ku jiraan xukunka ay qaadanayaan murtad ay tahay in la wada dilana ay dhiigooda iyo maalkooda ay u banaan tahay maalin min ayaamna salaad ay kula qabatay salaad ay u kala wada loo kala dukadaada ku sheeg weeyaan la kala horeysiinayo maalinba maalin ninba maalin ajashuna haday kari karaan gacantooda ay ku jiri lahayd al-shabaab ajashu gacantooda haday ku jiri lahayd waa hore wariyaal ka shaqeeyeen Muqdisho laakiin ajashu gacantooda ku jirna unfortunately maxaan ku raadaan unfortunately ajashu gacantooda kuma jiro so dad badan oo maanta dawladda Soomaaliya kamid ah waxa ay aaminsan yihiin oo al-shabaabna kamid ahaan jiray in ay wariyo ee Muqdisho ka shaqeeyay maanta xukunka al-shabaab ee ka aaminsan yihiin ee xukun gaalnimo xukun dhiigooda iyo maalkooda in uu u banaan yahay laakiin wariyaashu ma oga sirta ka dambeysana waxa ay tahay in laba mid ay tahay waa midda koowaad in loo kala hormaro in al-shabaab la qiimeeyo wariyaashu murtadiin maahan waa dad runtii hawl aad iyo aad u fiican ummadda Soomaaliyeed waa dadka Soomaalida noloshooda go'aamiyo weeye bedela dhinac u bedela nabadda u bedela dib u heshiisiinta u bedela horumarka u bedela ganacsiga u bedela waa dad runtii hawl aad iyo aad u muhiim ah oo nolosha Soomaalida lagu arjasti gareeyo u wada dadkan weey qiimo leh laakiin qof qiimo leh uma raba wariyaha dilayaan aqoonyahanka dilayaan sarkaalka dilayaan wasiirka dilayaan caruurta dilayaan qof kasta oo ah murtad oo ah qof kasta oo ah qof diinta ka baxay laakiin iyada diinta ka baxay waxa jira mar aan xirnaa oo aan maqlay tuuriyare oo hadda taliyaha suuqda qaranka maxaan ku raadayay dawladda Soomaaliya inuu u bixishay maadaama magac shabaab waa dhalinyartaana intaynan hadda isla joogto iyo in badan oo Soomaaliyeed iyo adduunkuba dhalinyaro sharafna waa lahan kartaa xumaanna waa lahan kartaa war magacan waa disheen maxaa ay ku disheen nimanku magaciisa dhalinyartu ay dilayaan aan soo celino maxaa loo baxshaa ugu saal yiraahdo ururka gumaadka ummadda Soomaaliyeed hal yiraahdo wixii ka dambeeyay annaga magaca al-shabaab waa la bedelay waa la socotaa way ku mahadsantahay wasaaradda warfaafintu inay hay'adaha amniga ay runtii ay ayadoon laga fariisan xataa ay totally ay maxaan ku yiraahdaa ay magacaas hirgelisay al-shabaab wax la yiraahdo al-shabaab magac macnaheedu waxa weeyaan waa dhalinyarana magac fiican waaye magaca fiican inaan u ogolaano maahan in la wasaqeeyo cadawga aan la dagaalamayna waxa la yiraahdaa ugus waxa weeyaan waxa laga soo gaabshay waa ururka gumaadka ummadda Soomaaliyeed waxaan rajaynayaa saxaafadda qaybaheeda kala duwan ee halkan fadhiya midda dawladdu ay maamusho on runtii aan shaqo weyn haysa iyo kuwa kale oo ay naftooda shaqo weyn haya inta aan ku soo biirin inay ku soo biiraan maanta kadib waxa loogu yeerayaa official name-ka oo nimanka ay leeyihiin waa ugus ma doonayno inaan idaacadaha al-shabaab inaan idaacadaha ka maqalno ma doonayno Come
isagoo sii sharaxaya xasan ugaarsiga wariyaasha waxa uu ajandaha labaad ee loo dilo wariyaasha ku micneeyey in laba midood ay noqoto warbaahintu mid meel marisa ajandaha kooxda iyo mid la aamusiyo habab kala duwanba ha loo maree waa marka labaadoo ah in wariye ama idaacadooda ka madax banaan ama wariye aanan wariyahooda ahayn in uu Soomaaliya ka howlgalo labadaas way ku jirtaa waa in aan helaa ajandaha xafiiska uu ku shaqeynayo waxaa kaloo qasaba in aan helaa ajandaha ka soo baxay xafiiskayga cid meel mariso haddii noqoto haddii in dadka Soomaalida ama internationalku in loo sheego noqoto inaan helaa ajandaha xafiiskayga ka soo baxay cid kale oo gudbiso soo masti waxa ah cabsigelinta ma imaanayso haddaad wax dilin ma imaanayso wax cabsigelin ah waa in marka hore lagaaga dambeeya cabsi aadisha Cabdilcasiis oo atqaanin aadisha jaamac oo atqaanin aadisha Cabdullaahi oo atqaanin aadisha Xuseen oo atqaanin aadisha Xasan oo atqaanin soo Cabdiqaadir kan iyo maxaan ku geedigan iyo Fulaan kan kale Axmed kan iyo Maxamed kan kale marka inteena la dilo it means waa cabsanaya waxay ku dhiiranayaan booska ay mareen ragii saaxiibada ahaa hal mari waa wax ay ka dibdhigayaan booskaas isku mari soo cabsidaas meesha way soo galaysaa qodobka labaad oo ah in wax allaala wixii ay rabaan loo sheego ma dhacayso ilaa ay wax cabsigelinteena qayb ka tahay waa wax jira ayadoo inta badan waxaan maqalnaa wariye ayaa la dilay iyo mid baa la dhaawacay waxay dad badan isweydiinayaan inay jirto koox u diyaarsan qofkii wariye sheegtaba in la iska dilo iyo in la dilo oo keliya wariye ay soo sahansadeen oo kadibna sidaas ku dilaan wariyuhu cidda dilayso maxaan ku waa amni sida aad sheegto waa qoladii mas'uuliyadda ahayd cidda amraysuna ma ahan inuu asaga is amray waa la soo amraa islaac la'aanna ma min ruux bistoolada wato asan islaac amrin ma fuliyo fariintu sahan weeyaan sahanka qofku uu sameeynaya mar alla markuu sameeyo maxaan ku raadiyaa waxa la rabaa in la dilo Cabdilcasiis oo adiga ah in la dilo waxa soo sameeynaya ninkan oo Cabdilcasiis meel ku ayaa soo sameeynaya anigoo aan ruuxii wax dilayay iima soo sheegay wuxuu soo sheegay ninkaas oo ah ninkii amiirka u hayay isaga أميركي وحصوا وعيا وأميركي إصلاع نكاس أميركي إصلاع وهو وعيا أميركي بودو أميركي بودو أمني مركي أوعى وحد عيسى إلهي كوما درنا هذا وركة محنكو هذا إيشاك فلينتا وحصوا وعيا مدحي دليلك خرشسنا أيو صوا وعيا مدحي دليلك خرشسنا وحو وعيا أحد كماش أو جو عبدالعزيز ومقدشاء روح مسؤولك وهاي روح مسؤولك وهاي أيا وعيا دقمدو عبدالعزيز جوغي دقمداس أيا ضد أدريو sidaas weeyaan processka way islaac la'aan bataatan wax dhaca ma jiro silsilada dilalka wariyaasha la bartilmaameedsanayo waxay ka soo bilaabatay allaha u naxariistee Mahad Axmed Cilmi oo xilli aroornimo ah lagu dilay meel u dhow xaruntii Hoon Afrika Daynile waxaana dilkaasi oo aysan jirin cid sheegatay waqtigaasi la tuunsanaa inay ka dambeeyeen kooxda ugus ee Al-Shabaab oo waqtiyadaasi ay baranayaan dadka Soomaaliyeed waxaana la aaminsanaa in Xasan Xanafi ah shakhsigii shirqoolkaasi soo maleegay wariyaal ka tirsanaa shirkadii warbaahinta Hoon Afrika waxay sheegeen inay maalmo ka hor intii aan la dilin Mahad ku arki jireen Xasan Xanafi maqaayad yar oo ka soo horjeeda Hoon Afrika halkaas oo uu fadhin jiray isaga la fahantiisu ma diidana Xasan inay halkaas isku arkeen wariyaal ka tirsan Hoon Afrika way jirtaa warka aad sheegaysid hal maalin ay ahayd rag Hoon Afrika shaqeeyay inaan isku aragnay Hoon Afrika ismiye ay ku taalay hadda ma garan karo cid degtay waxa ka soo horjeeda Pibita subaxii lagu cabi jiray qaxwo iyo sambuus ama isku qabsi wax la yiraahdo mashmashi sambuus anaguna aan degnaa dhabarka dambe ee Pibitada waxa dhici jirtay markaa in subaxii markaan salaada soo tukado masaajid garaashta ku yaala soo tukan jiray lacagta waxaan soo fadhiisan jiray goobtan markaan soo fadhiisto dabadeed waxa dhici jirtay inaan ku shaaho ama ku qaxwo cabo wariyaashan Afrika warka 2 saac ayuu u soo shaqo tagi jireen hal saac iyo xogo ay imaan jireen jeeto qaar iyaga kamid ah ma aha mostly ama badana ma la dhihi karo qaar iyaga kamid ah way dhacday in aan isku aragnay maalmaha kamid ah xasuusta aan xasuusanahay aan dhihi karo hebel iyo hebel ama hebel bas oo ahaa in aan meeshaas sheegaysa aan isku aragnay way jirtaa anaguna markaas meeshaas maqaayada meesha ka dambayso ayaan guri ahaan degnaa laakiin ajandahaygu ma ahayn dilka Cabdullaahi kulmiya kamid ah
أحد أن عبد الله كلمية هين اسمه أنا أعرف مش عبد الله كلمية عدو waxaa jirtay in waliba mar kaliya ma aha in aan dhowr maalmood aan ninkan la yiraahdo Xasan Xanafi aan xilliga shaqada aan u socday aan ku arkay meel yar oo maqaaxi ah oo waa hal qol oo gabar sahra la yiraahdo ay Hong Africa horteeda ka sameysay oo raashinka iyo shaaha iyo waxyaabahaas ay ka sameyn jirtay meesha isagoo fadhiyo waxay ku dhaganeed guriga agaasimaha Hong Africa Ahmed Abdisalaam oo albaabka Hong Africa ay toos isugu beegnaayeen marka Xasan Xanafi dhowr subaxan meesha ku maray dhowr subaxan arkay isagoo xataa waxaan arkay aad fahmaysid nin deegaanka inuusan ahayn sababtoo asaga wuxuu isugu ka sheegay inuu deegaanka yahay waxa geed degan tahay guryahan dambe Falastiin iyo Axmed Cabdi dhabarkooda deganahay marka waa in meeshaan aan deganahay intaan xoogaa shaah iyo qaxwo iska soo doontaa xasan xanafi waxa uu ku doodayaa inuusan waxba ka ogeyn dilka Mahad laakiin markii la dhaawacay kadib ay al-shabaab ku wargeliyeen inay dileen Mahad Axmed Cilmi kadibna loo diray inuu soo xaqiijiyo dhimashada dhaawac sida uu yahay xaalka Mahad marka la dilay ragii dilay qaar nin amiir u ahaa ayaa soo wacay inuu hurda meel iskool ah عبد الرحمن يوسف العدالة يقان اسكول كأنا نو كدي جري توفيق برادرز أنا جيفو صوعي ديتو محن كور هذا يشوف يرنيو نكا سندلني حبضنا ما لحنا وقفني داوع إنه قاضي أيان الله يشيء صور كاس هوبي وحنا عرق ريال وحنا أكرم هذا كمدها نير حسن موسى سبرية وهذا in Europe I think إنه يوروب شو أنا ملاينا يا محن كور هذا معي جيبي جود عد الله لعد يوريو أنا فيك الشقيدة والمينيس زين أوكر محمدان فيو هذا وكيل كواي متشاكل ملاي والمينيس مركي دبا حسن موسى كوا عليه حسن موسى نيو حن كور وح إيش سوى حجرة تتوحيري وحن جوجنا استال مدينة ما هدنا وحو كشرة صالة استالك وحنا القصة ما يدونا خلين هالسنا وياي أنت أصلا كومن أفكار سو الميني يقول مركز بجاري ماركت يا إيه اللي جراش يهودو جاري جانا صوب حي اللي هذا محمود علي ربنا ورياها وهذا اللي أصينا دنتي محن كل هذا متشكل دنتي 2014 كي هذاها أيا مركز يدوا نكيان وطي استال مدينة عندنا استال مدينة نشوفنا سالة ما هذا كشران تجي ماشية أمم دورة يرك بدن سكوارنا فاستين أحمد الحاج يرك بدن ماشي سكوار نوريالا وكتعسي ماشي حالة ده مبي رجي يسوي عيين محن كل هذا إيش استالك سالة وسارية سوا هذا حوالي 6 ساعة يحوى مريحات دقيقة على صعد مش هيكرا أي صوب حد دكتوركي وحنا ورجلي جريدة مهد إنه بنتي مركز حالة أضيق الوجري ورنتي أرجع حله دل وحقا كينو جوري وقف صحفية سبرير لوجست ولي بقى أنا جنا لشقينا مركز درين كي قاعد أد ومحسوس إنه صوع لكن وحن قياسة ضدك صوع إنه كجري صابته لبا قف كليا يسوي عيبه حسن عدى iyo qof kale inuu asaga ayaan jecel qof raguna qofkaas dabcan mahad ma dhintay ayuu yiri mise waa dhaawac marka waxba kama sheegi karaan aniga markaas xaalad deganaan aan ku sugnaa jawaab aan si xataa ilaa hadda ma aqaan Abdullahi Kulmiye Cadow oo ka tirsanaa wariyaashii Hong Africa ayaa sheegay inuu ku arkay Xasan Xanafi wadada warshadaha isagoo wata gaari kuna sii socda isbitaalka Madiino idaacadan imaanay shir degdeg ah la galay in aaskaas aan ka qayb galno oo hawshaas la qabto dhowr gaari la qaatay anigu waxaan raacay Xasan Cadde xasan Sheekh Axmed Cadde يعني وعفراني جاري قال وطيان راني اسبتال كمركي لهذا هو الشركة اللي عنده ولا ماضي ودد ورشدها مركي عن كل عن حرد يقول ودياش أكتر جاك بوينت أو إذا مدة الدولة ده أي حل جالس كويالي جاك بوينت تيجي مركي عن استغني أو عن سوشيغني أيوه هذا ندبر كأنك هذا يا حسن سو جاري روتي مركز الحوار أنا كنا وريان أي رجعنا بيقين أنا مركز ما أوجن واحدا أما برنامج كان وني كان كجرا
wuxuu noo yahay nin wariyaha oo idaacadda qur'aan kariimka ka shaqayn jiray. xasan xanafi waxa uu guta hawshii u tagay isbitaal madiino waxaana uu kooxdiisa ka siiyey warbixin xaaladda mahad oo ugu dambayntii ay dhakhaatiirtu xaqiijiyeen inuu dhintay kadibna waxa uu ka qayb galay la tashi laga sameeyey halka lagu aasi doono mahad axmed cilmi isagoo markii dambena ujeeddadiisu ahayd inuu diyaariyo habkii loo dili lahaa cali iimaan sharmaake oo ahaa agaasimihii hoon afriig wuxuuna xasan wax ka soo qaaday meydka mahad oo janaasadii lagula tukaday masjidka sheekh cali suufi halkaas oo isku arkeen xasan raggii dilay mahad oo uu sheegay inay ka doodeen sidii loo dili lahaa cali iimaan sharmaake raggii dilay mahad goobtaan isku aragna masaajidka iyagoo damacoodu yahay in cali iimaan goobta ay ku dilaan way wargelsheen waxa ayna ii yidhaahdeen in ay rabaan in cali iimaan isla goobta cali iimaan gaari leyla calaawi madow ah langruusel ay ku qorantahay watay inay rabaan inay meesha ku dilaan waan ka naxay mar waan ka naxay marna waa la yaabay nin la yidhaahdo cukaasha farxaan la yidhaahdo magaciisa asala oo ku dhintay meel la yidhahdo coolgod dagaal u dhexeeyey ahlusunnada ka talisa gobollada dhexe qaybo ka mid ah iyo al-shabaab ku dhintay ayaa isagoo amniga markaas mas-uul ka ahaa wuxuu yidhi gaariga oo wato waa nuucmeen waxaan ku idhi waa liila saaraya rag guriyaala ila saarnaa oo ka mid ah maxamed ibraahim raagihii hadda dhintay oo baahinta qaranka u shaqeynaya ka mid ahaa rag noocaasa ila saarnaa waa liila saarayaan ku idhi laakiin gaari langruusel waa marka intuusa aan dhihin ayuu wuxuu igu yidhi gaarigu aan gadan rabno waa nuucee asa waxaan ku idhi gaariga aan gadan rabno waa gaari langruusel ah kalarkiisa ma qurxan yahay waa nuucee kalarkiisu yidhi markaas wuxuu qaadanayaa xog ah gaariga noociisa in lama soo gaari kara asagiyaa wuxuu jooga iftin meesha la leeyahay ee khuburaadka barakaad marka loo socdo ku taallo ayuu joogaa gaariga waxaan ku idhi gaari madow waa langruusel aana ku qoran midab ahaanna ana ilama dilno waa mahadsantoodi nin la yidhaahdo sandhool cabdisiyaada ii yimid qabuuraha anagoo joogno hadda maxaan ku rahdaa isheeg oo tagsiila ahna waa wadi baabuurkiisa uu saarnaay ninkaas wuxuu igu yidhi waxaan ku rahdaa isheeg niyo baabuurka noocaas ma cali imaam markaas shir jira aduu ku hayay meesha shir jira aduu ku hayay jaa miina intaan duugta iyo khabriga jirno miina loo diyaariyey cali aniga cali baabuurkeen baabuur raafa foor ah ayaa noo dhexeeyey cali iyo nin la yidhaha sahal oo reuters u shaqaynayay iyo falastiin iyo darawalka afartoodii ku saarnaayeen baabuurka lila calaawida ah miinadii loo dhigay sida ay rabeen ayay u noqotay cali ayaana meesha ku tegay anigu jugtaan maqlay meel godaan ka soo baxay markaas biyo roob biyo fariis ah ka soo baxay jug aan maqlay baabuurka bareegaan u qabtay raafa foortii waxaa saarnaa dhoorre iyo rag lamid aha saarnaa maxamed maxamuud dhoorre iyo rag lamid aha saarnaa iyagaana igaga horreeyey meydka cali baabuurkiiaan ka soo degtay waa imid intaana meydka arag ka hor halkaan inay aheedaan qiyaasayaa inay ka gashay miinada firirkeeda waxaa dhacday mahad idhahdii cali inuu dhintay goobta miid ahaan looga soo qaaday meydkii waa la qaaday waxaa la geeyey qabuurihii maxay ahayd barakaad qabuuraha barakaad intaas waa nala socdeen raggan uu ku jiro xasan xanafi mahad intaan la aasinaa waxaa la yeeshay kulan oo cali uu dhex taagan yahay oo aad ka arki doontaa sawirka waxaan go-aanku loo qaatay in la damiyo idaacadaha muddo 24 saac gudahooda ayadoo laga jawaabayo arrintan dilka mahad oo bilow u ahaa dilkii saxafiyiinta cali idaacadda BBC da laanteeda afka Soomaaliga ayuu wuxuu siiyey waraysi markaas uga hadlayo shaqadii mahad Allah naxariiste iyo dilkiisa iyo inuu ahaa mahad nin u doodi jiray ama u hadli jiray dadka amaarta codkooda meel dheer gaarin shaqaduna aysan istaagi doonin Allah naxariiste mahad waxaa la aasay 2 duhurnimo calina markaas BBC da ayuu waraysi siiyey kadib markii mahad la aasay waan soo baxnay baabuur badan baa la isla socotay cali waxay isla socdeen falastiin axmed iimaan iyo sahal yar la yidhaahdo oo reuters inuu sawir qaado u yahay jeclahay sahal markii la soo baxay baabuurta aad u badneed gaariga ka horreeya cali ayaan saarnayn waddadu waxay ahayd marka meel biyo ku jireen roobaa da-ay miinada marka waxaa la geeyey meel baabuurka uu saas uga yar leexanayey oo dhiiqada saas looga baxayey qaraxaan maqalnay markaan qarax maqalnay gaariguu istaagay
qaraxa dhacay kadib waxaa la sameeyey marka waa la soo degay gaarigii oo halkaas ku dhacay iyo allah naxariista cali imaan oo meelahana wax ka gaarin halbowlo go'ay lugna ay jaban tahay ayaa isla markiiba gaariga laga soo dejiyey falastiin dhaawac saas u fudud gaaray dhulkaa la soo dhigay dhulka markii la soo dhigay isla markiiba meyd u ahaaba kadib sidii aa lagu soo qaaday baabuuraa lagula soo cararay allah naxariista cali sidaas ayuu ku dhintay baabuur badanna way socotay oo xasan xanifina markaasi waa nala socday siciid tahliil axmed agaasimihii hoon afriig waxa uu ka mid ahaa wariyaal aan marnaba ka bixin dalka oo aakhirkii ku bacay gacanta kooxda al-shabaab waxay siciid ku marti qaadeen kooxda al-shabaab shir isku beddelay shirqool isaga iyo agaasimayaasha warbaahinta maxalliga ah xasan xanafi waxa uu ahaa shakhsigii warbaahinta ku marti qaaday shirkaasi shirqoolka waxaana uu sharaxayaa wixii uu ka ogaa dilkaas siciid dilkiisa sina wax ugu ogaa sina wax uguma ogaa sina waa la igu mishimay saddexdaas bay ahayd raggii ila socdaan oo gaariyaan wata kaarib ah iyo lagu wilo staff ah waxaan ugu soo tagay Shabeelle oo ahayd xaruntii aan ku balamiyo iyo agaasimayaasha idaacadaha ama madaxda idaacadaha inaan ka soo wadana ay ahayd aanan ka soo waday soo bistoolatayda aan la baxay kolkii aan la baxay aan soo jeestay laba xabo kala intayna dhicinna siciid oo sii dhacaya arkay laba xabana way dhacay saan haddaan u soo fiiriyna unfortunately waxaan arkay rag aan aqaano hebel iyo hebel aan dhihi karo oo shabaab sidaas ayayna u dhacday kadib markuu sheekada iga sheekeeyey xasan xanafi ayaan weydiisay nisa inay ii ogolaadaan xasan xanafi inuu geeyo bartii ay ku dileen allah u naxariistay marxuum siciid tahliil waxayna nisa iga aqbashay codsigayga iyadoo loo xilsaaray amniga aniga iyo eedaysanaha ururka aar ee nisa oo noo galbiyey suuqa bakaaraha kadibna waxuu xasanna dulgeeyey bartii ay marayeen markii la dilay siciid cabdicasiis halkan siciid tahliil axmed agaasimihii warbaahinta hoon afriig ayaa lagu dilay goladaas ayaan ka soo wada leexanay siciid waa hor soconnay anugu halkaas ayaan marayay jingadan dhammaadkeeda siciidna halkan ayuu marayay raggii agaasimayaasha idaacaduna way ka dambeeyeen siciid halkan ayaa la dhigay xusuusteydii halkan ayaa la dhigay waxaan kula hortoomay anugu halkaasaan sii marayay aniguna waa soo laabtay siciid meydkiisa halkan ayuu yaalay wixii warbaahinta ka socday ee agaasimayaasha warbaahinta ahna luuqan ayay ku carareen sidaas ayayna idaacadda Shabeelle oo dhismeeda bakaara xarunta bakaara ay ku taallay ay u galeen marka halkan xusuus gooni u leedahay 9kii bishii September 2009 ayay ahayd marka xagal socota marka waxaan u soconay guriga arkaysid halka guriga ku yaallo aad hadda lagu soo jeedo daaqadiisa ayuu ahaa goobta lagu talagalay in munaasabadda xilli wareejinta ka dhacdo anoo shaqada ku wareejinayay ninkan hadda la leeyahay Yunus Abdulfataax la oran jiray hadda iclaamka ka mid ah oo faafinta ka mid ah marka halkaa ayaan u soconay guriga xafladdu ay ka dhacayso gurigaas ayuu ahaa laakiin inta aan gaarin daqiiqadaha noo dhinnaa waa dareemi kartaa halkan ayaa la dhigay siciid anuguna halkan ayaan la gadoomay oo luuq ahayd markaa sidaas ayaana uga tagay siciid meydkiisa halkan u sheegay saddex xabadood ayaa lagu dhuftay siciid xabadii koowaad waxay ugu dhacday madaxa laba kalena waa lagu diray kuwa dhagartaa galaaye intuu ciidda kala dhigay miinada dhex dhigayo waqtigii dhammaayay waqtigiinni dhacdalatay baanahay baayihii dalkaanahay dhidirkaan ku arkana marna dhaafsi maaye siciid tahliil axmed wuxuu qabay shakiga ah inay jiri karto khatar waxaana ka mid ahaa dadkii uu la xiriiray siciid weriye cabdulaahi kulmiye cadow oo ka duubay codkan oo laga helay telefoonka marxuum siciid tahliil markii la dilay kadib dacwada maxay tahay waxaan ku leeyahay waalan rabaa adiga waa tegida nakir diyaar gurigaan joogaa inta ayaana rabo shabaab oo tagayna shabaab maanta waxaan balaadii iyo rajul waaweyn cabdulaahi kulmiye waa saacna marka diyaar guriga maxamed abu karne waaya ay soo baxshaan oo soo caaga
cabdiraxmaan yuusuf alcadaala oo markaasi ahaa tifaftirihii shabeelle ayaa sheegay in xaruntooda bannaankeeda lagu ballamiyey agaasimayaasha kadibna halkaas la yska raacay wuxuuna cadaala aaminsan yahay in muhiimadda loo wacay ay ahayd oo keliya in la dilo siciid tahliil axmed waxay ugu xusuus badneed maalintii siciid tahliil la dila allah u naxariista oo xasan isugu wacay dadkii idaacadaha madaxda ka ahaa oo adiga aad ku jirtay سعيد وكجري أنا كان كجري هراب وكجري رد بدنا إذا عادها مدحك كجرين مالين ظهر أي أحد ماشي إذا عاد شباب اللي دقنا ذا لقبل لمي دتك يوردن حسن يعني يونس اللي راح ذا جوجي مركي ورياش اللي سكيمد سعيد صاد هاي سعيد حقال السوقي مركي سعيد يبدو حاليا إنك حياة وضدي أي لقاضي ماشي دقنا الحوالات قارن مركز مرة إنه وحر نجاه الريان ayaa telefoon ku hadlay ayuu soo noqday xasan iyo yunus way soo noqdeen jid yaro xawaalada dahabshiil dhabarkeeda maraan marnay wax yar ay naga horeeyeen xasan iyo yunus waxa ku xigay ayaga catoosh iyo cabdullaahi kulmiye iyo ragaan ka xusuusto siciid tahliil iyo cali madooba ku xigay aniga iyo muqtaar hiraaba u dambeeyay ilaahu naxariistay iyo xasan cali geesi markaan jid yar isgoysoo ahaa ay dhaafeen iyaga siciidna uu kasii baxaya annagana aanan weli wadadii gelin ayaan xabad maqalnay xabaddii gadaalkeena ka soo dhacaysay intaanan fiirinba waxaan aragnay siciid oo dhulka yaala waa la kala cararay meesha annaga jid luuq yaraan ku cararnay wax yar markaan ordaan meeshii soo fiiriyey waxaan arkay laba nin oo bastoolada haysto oo muxuu siciid sii tooganaya iyo xasan oo soo jeedo xasan xanafi waxa uu markii la dilay siciid kadib wacay weriyaal dhowr ah waxaa ka mid ah dadkii uu wacay allaha u naxariiste agaasimihii shabeelle mukhtaar maxamed hiraabe oo isaga lafahaantiisu ay al-shabaab dileen waa kan hiraabe oo sharaxaya wixii dhex maray isaga iyo xanafi الله نحريسي راسنا هذيك اللي قال لك ما نحريسي إلهي قال لك ما وأنا منك الله نحريسنا ما بعنا إلهي وأنا نحريسنا لكن منك كل جامعة الناس وضع أي وحدة kahor intii aan la dilin siciid tahliil waxay al-shabaab u diideen inay war siiyaan idaacadda hoon afriig weriye cabdulaahi kulmiye oo markaasi ka qaban jiray hoon afriig barnaamijka waraysyada ayaa la xiriiray xasan xanafi si uga qanciya waxay tabanayaan kadibna waxauu xasan xanafi ku xiray nin la yidhaahdo yoonis oo ay dhex martay isaga iyo cabdulaahi kulmiye sheekadan waan wacay walaalow habeen dhawidna waan kula hadlay adigaana shabaab iyo dhinaca saxaafadda xiriiriye maxaa ay ku dhacday arrintaas kaasir waxay ku dhacday idinka dawladda ku meel gaarka ayaa idin amaantay oo xafiiska madaxweynaha tagteen oo saas baa la idin soo dhaweeyay maanta waxaan arkaysaa macnaha oo inta la yiri iyo laaga midka ku dhigtay waxaana markii percentage la fiiriyay garabka weyn nimanka walaaleyna ka qaatay hadii marka maalin oo shir jira idin madaxtooyada ka dhacay مثلا في هون في laga soo dhaweeyay jawaabteedu ay noqotay in anaga nagu seexato wax macnaa oo kulleena la qurxoonaa ma aysan noqon waxaan dareensanahay nimanka walaalaheen hoon afriiga waa naga maarmeen waxay nooga maarmeen waxay tahay inay nimankaa kale ee anagu aan murtidiinta u haysanay xabadda aan ku ridayno inay nagala safteen marka garabkaan haysaa adiga kuma baahni waa wax hoon afriig anagu saa ani maanta jooga ahaan dareensanahay saas waay markay saas tahay taladeena waxay ku go-an tahay iyaga wararka qaadanaysaan iyaga la xaajooda iyaga la safta idinkeeda jirtaan laakiin annaga keenna waana ka ceshay bas ummadaas kaloo ilaahay aan wararka ka fafsanayna mukhtaar maxamed hiraabe agaasimihii idaacadda shabeelle waxa uu ka mid ahaa dad uu soo amray axmed godone in la dilo kuwaas oo ka tirsanaa warbaahinta waxaana lagu dilay marxuum hiraabe gudaha suuqa bakaaraha isagoo uu la socdo weriye axmed taajir oo isna lagu dhaawacay weerarkaas godona soo amray isaga iyo rag guriyaal ah waxaa ka mid ahaa mukhtaar maxamed hiraabe agaasimihii shabeelle ahaa nin la yidhaha catoosh agaasimaha simba ahaa nin ayaana xuseen cabdi oo b b c da wakiil wareed u ahaa rag noocaasa ka mid ahaa shan ay ahaayeen banaadir axmadna banaadir agaasimaheeda ayaa ka mid ahaa in la soo amray markaas waxaa socday ololihii president sheekh shariif sheekh axmed lagu soo dooranayay soo ololahaasa ayaa socday ololihii socday ayaa sabab u ahaa in la dilo dadkaas maadaama loo arkay in ay u ololeynayaan
ololaha madaxweynaha oo Axmed Walad Cabdalla wakiilkii xogayaha guud qaramada midowday u qaabilsan Soomaaliya iyo Shariif oo markaas ururkii dibxiraynta Soomaaliya asmara fadhigeedu ahaa ka soo burqaday Djibouti-na ololaheeda uu ka socday soo xaqiiqiyan in shantaas la amro waa ogaa aniga axmed taajir oo hadda qaxooti ku ah Uganda ayaa ka sheekeynaya wixii maalintaasi dhacay 10 talabood kadib dib aan soo eegay marka waxaan arkay agaasimaha idaacadda Allahu naxariisto Mukhtaar Maxamed Raabad oo yaala marka bal waxaan sii hubiyay waan dareemay xabada ku dhacday bal xaaladiisa sii agbar islaantaada noo sii gudbin min dhalinyaro oo dhuuban oo adigu aan ku qiyaasay daaha 17 jir ilaa 16 oo min dhuuban oo cad ahaa laakiin ana wajigiisa kale ma garan karayo ayaa xabadii labaad wuxuu kaga dhuftay labada indhood dhexdeeda sujuudda meesha la yiraahdo si saddexaadna anigu ugu soo riday oo runtii jinteeda dhex martay qoraan u sii cararay markaanu xabada kalena way igu rideen oradkiina waxaan ku kala shirkadda Telecom Soomaaliya maxamed cabdullaahi xaaji oo tifaftira ku-xigeenkii Shabeelle wakhtigaasi uu agaasimaha ka Mukhtaar Maxamed Hiraabe ahaa ayaa aaminsan in Xasan Xanafi uu ka dambeeyey dilka agaasima Hiraabe Xasan Xanafi dhowr maalin ka hor agaasimaha Allahu naxariisto Mukhtaar Hiraabe ayuu wiilal la socday baray oo u ekaa dadka wax dila maalintii la dilay Mukhtaar Maxamed Hiraabe Xasan Xanafi wuxuu ahaa qofka ugu horeeyay oo xiriir ragga qaarkeena la soo sameeyay oo xataa ragga qaar isku dayay markii Hiraabe la dilin oo ayagana kharij kooxda ugus ee Al-Shabaab oo hadda gobolkeedu sii dhacayo waxa ay sii laba jibaareen tacadiyada ay u geysanayaan dadka shacabka ah dhawaan waxa ay dad shacab oo ku shaaxeynaya xeebta Lido ku xasuuqeen maqaayad halka ku taala madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo maqaayadaasi booqday maalin kadib markii ay mashaqadaasi dhacday ayaa halka ka sheegay in shabaab waqtigoodii dhamaaday nimankan waa xaqin dadka Soomaaliyeed ee dalka Soomaaliya waa dhulkii xaqinka iyo dhulkana xaqinka dhamaaday way dhamaanayaan sidaas awoodoodu maalin walba u sii daciifaysa maalin walba hoos u sii aadaysa dadka Soomaaliyeed iyo dawladooda ayaana ka soo hari doona hadii la yiraahdo Sheekh Nuur Maxamed Abkey tifaftirihii wakaaladda wararka Soomaaliyeed ee Sona waxay Al-Shabaab ka afduubteen isgoyska ifka xarane xilli galab ah isagoo ku sii jeeda guriga ka degana xaafadda suuqa xoolaha ee degmada Yaaqshiid waxaana Sheekh Nuur Abkey oo ahaa nin aan marnaba cabsi ka qabin in la dilo uu si joogta u aadi jiray gurigiisa oo markaasi halka uu ku yaalay ay ka talinayeen kooxda ugus ee Al-Shabaab waxaana Sheekh Nuur uu rumaysnaa qadarta Alle isagoo ku adkaystay inuusan marnaba ka baaqsanayn gurigiisa marar dhowr ah oo lagula taliyay inuu iska seexdo wasaaradda warfaafinta
ismaaciil salaad guuleed istiila oo markaasi ka hor aan laga warhayn inuu ka mid yahay kooxda al-shabaab ayaa ka mid ahaa wariyaal imaan jiray wasaaradda warfaafinta soomaaliya si ay u helaan wararka dowladda soomaaliya waxaana uu ismaaciil istiila si joogtaa u gudbin jiray xogta ah in sheekh nuur abkey uu u shaqeeyo wasaaradda warfaafinta maadaama uusan ahayn sheekh nuur wariye codkiisa la maqlo oo adkayd in la ogaado doorka uu ka ciyaarayay warbaahinta qaranka xasan xanafi oo ay si fiican isku yaqaaneen sheekh nuur abkey ayaa isku dubariday qaabka loo qaarajin lahaa abkey wuxuuna fadhiistay wadamar inuu ahayd abkey oo aan qabin tuhun in la beegsanayo si caadiyana maalin kasta hal wadda uu isticmaali jiray waxa uu arkay abkey xasan xanafi iyo nin kale oo wada fadhiya meel kadibna waxa uu kula leexday salaan isagoo aan cabsi ka qabin in xanafi dilayo kadibna wuu iska gudbay sheekh nuur abkey xasan xanafina waxa uu ka daba diray abkey ninkii la fadhiyey sheekh nuur hadda soo noqon maayo sheekh nuur dilkiisana qaybaan ka lahaa gacanteyda aan ku dilin laakiin sababkeedaan lahaa sheekh nuur maxamed abkey gacanteyda anaa ku qabtay أنا قاري كاتجي أنا قاعد تيجي قبته حقيت قبته إفك حلا سكوس كيف قاعد نقول قبته محو صارنا ما قاري عاصي وصارناي سوق حلو سوق شغلور روحان كدلي وحاي هيك إن وكشقينا هذه مقدشو وهذا مركز إذا عدى وشقيزة دولة افتراق الصومالي هذا تلفزيون يمد هلا بدنا جرت لك هذه مقدشو مركز إيه هذه مقدشو ترسليتر أم ترجمان وها أيان هلا حكتوا هذا من إسماعيل سراد قولت ستيلا oo hadda Ismaaciil yar la baxay ayaan istiyay inuu u shaqeeyo halkan saas darteed anoo masaajidka Abu Hurayra bakaara fadhiyo shaah cabayo ayuu Sheekh Nuur soo maray uu salaamay uu i hormaray marna waa farxay marna waa naxay mar waa farxay ninka aan arkay oo aan ka aaminsanaa murtad inuu yahay ku farxay marna waa naxay ninka la dili doono in uu yahay nin aan aqaano na waa ka naxay xaqiiqdii markaan ka waran wiil aan ila socday meesha ila fadhiya waxa ay raac ninkaas lugta meesha dhiga la dhig suuq xoolo dagnaa suuq xoolna shabaab maamulay deeto shaqor sidaan ku daba kacnay yarkii waxa ay baawrac samoodtid haa ii waawta la raacan ku ila socdaa Sheekh Nuur Cabbaar uu jiray anna waa ka dambeeyay Sheekh Nuur ma qabin dhagar ah dilkiisa in aniga wax ka abaabul doono ama in aan soo daba socdo ama in aan ninka soo daba dirma aaminsaneen wiilka aan soo daba dirane ma yaqaano soo ninkan waa iska daba socday baar wuxuu jaam ay tageen oo aad loo buuxo baarta soo xoolaa baarta afgooy baar saas la isku buuxo la isku dilay wala joogilka anuna meesha saa masaajidka xareed isbitaalka dhinaca uga dhaganay isbitaal xareed in la dhaano mana foomku fadhiisi jiray ayaa waxaan ku arkay yaxibuurkaasoo waxaan u sheegay Sheekh Nuur Abkey asuu saas miyaa warwaadaba kacayna gaari zuuka ah oo aan watay ayaa waxa ay watay gaari zuuka ah ayaan ka soo daba baxay gaari zuukaan ka daba qaadanay waa la joognay Sheekh Nuur caasi raaceen caasi wiilka ila socdana oo la raacay soo wiilkii asla waxayna inta uu leeyahay amniga markaas haysta la wacay asayna wuxuu yiri waa idin imaana isbartiiba ku haaya isbartiibaan ku haynay deeto maxaan ku raay wiilkii aan wacay ifka xal ugu dagaa baawrka waayo deeto baawr BL ah waa dareem kartaa intii church la yiri waxa uu sameeyo baawrku darawalku waxa weeye waxa ugu horeeya inuu bareega qabto uu qabto uu ku joojiyay أنا سود دقي ننكلو اللي يرادو داير مع داير عيسى اللي يرادو وصدح له يقارع مع تكافي هي جدك كسيق هذا الناي أو هوتيل بيس هي كسيق هذا أو محن كل دير دول أصلا so لبدينا أنا صدح هذا دقني ديتو محن كل هذا إيش وين وذا شنور أنا أقارن إنك كلامون أقول أنا اللي سود دقي باور كأنا صارتي تذكو ويابين باور مياردي سحرينو بنزل waxaan ku raadaa baawrkii ku horgooyay niman dhexeeran ay ka soo deen cimaamada wato iyo bistoolado dadku xooga la yaabay ku noqotay hal nima hadana kala baxay wixii xitaa wuxuu saarnaa caasiyo dhinac uu ka furnaamay dhinaca kale ayuu saarnaa dhinaca kale furay ana la soo deeyay baawrka ma 5 kun ku saarnaa 5 kun ana dhiibay waa is wada raacnay soo dhinaca waxaan u wada ifka oo ifka xaran dhinaceeda oo waxaan u wada gubta xigta baawrka markuu dhaafo baawrkii marqay waa socodsiinay markaan mareen isbuunyada oranay dalsan meesha oomada dalsan meeshaan marayno ismaaciil ka marka laga dhamaado ah soo kala wareegnay baawrkayna ku soo qaadanay isbartiibaa maqrib ku tukanay anaa la hadlayay anaa wareysanayay ima fahamsan in anaga wareysanay shaarkiisa anaa ugu xirnay Sheekh Nuur Daawud anoo yimid oo amniga ah markaas Daawudkii wuxuu yiri guriga uu degan yahay guriga aan deganahay niyahow
waxaan ku raadiyay isheego isku dhagan yihiin mana ka malaysanay ninka inuu meesha ku shaqeynayo daawudka warka ka xaqiijiyay intee lagu dilaa timid Sheekh Nuur intee lagu dilaa si shabaab isaga fogay eeda waxa soo baxay in lagu dilo meel xisbi islaam oo xasdaan aweyso markaas hogaamiye u ahay difaacooda in lagu dilo oo gid jecel ah markii la dilay Sheekh Nuur Abkay kadib waxay Xasan Xanafi iyo Ismaaciil Stilla siyaabo kala gooni u soo waceen wariye Bashiir Khaliif Gaani oo u sheegteen inay iyagu dileen Sheekh Nuur Abkay bal ila dhagaysta codadkii uu xilligaasi duubay wariye Gaani oo aan ku hormarayo codka Stilla kadibna Xasan Xanafi adiga iyo wax la mid oo kala saas oo kale inaan u bireeyo raba saas oo kale inaan midda xiga mariya raba murtadi bax adiga naada murtadiinta oo meesha ina joogay kuwa kale wixii murtadiin oo dhan waa la dilayaa adiga laftiga waa lagu dilaa murtadi oo qaayinka madaxaan laga jaray ilaahay ku dhaartay haddaan ku qabtaa jiro ma ka jarin islaamnimada aan sheeganay dhab ma haddaan ku qabtaa dada toobad oo intuu qoray idaacaddeena markii uu iga sheekeeyay Xasan Xanafi sida ay u dileen Sheekh Nuur Abkay ayaan isku raacnay goobtii ay kala degeen baabuurka halkan waa isgoyska ifka xalane oo ku dhow garoonka ciyaaraha Stadium Muqdisho waxa uu Xasan oo wata gaari yar kala degay bartan Sheekh Nuur Abkay gaari caasi ah kadibna waxa uu la tagay garoonka Stadium Muqdisho oo in cabaara uu ku hayay ugu dambeyntiina waxay geeyeen meel u dhow hoteelka Daame ee degmada Wardhiigley waa kan Xasan oo dul geeyay goobtii ay ku dileen Sheekh Nuur Abkay sharaxayana sida ay wax u dhaceen halkaan ay ahayd geedkaana ku yaali barta halkaasaan gaariga soo dhigay halkaana la fadhiisay Sheekh Nuur halkaasaan maxaan ku raadiyay isha ugu toogtay meedkiisa sidaan ayuu u dhacay halkaan ayaana ka tagnay qiyaastii imisa xabaa lagu dhuftay 3 xabo sidoo xabiyaab kala dhuftay waxa ku kala dhuftay leeyahay xibuur in leeyahay Macaldaar Ciise oo saddex ay isticmaaleen makaaro ay xagee uga dhuftay madaxa hay 3 xabo madaxii ugu dhacday حتى فنينكا waxay yimid gaariga ana waday halka laamiga laga soo leexanayaan joogay waxay igu yiraahdeen hatta maskaxda faniinkeeda ayuu soo gaartay ay igu yimaadeen gaariga waana gaariga bartaasan ku wal xasan ma jecla sidoo xanuunka u dareensiiyay Sheekh Nuur Abkay in loo dareensiyo taas bedelkeedana waxa uu caruurtii iyo xaaskii Sheekh Nuur Abkay weydiisanaya inay cafiyaan isagoo ku doodaya inuu diya ka bixin doono dilkaasi haddii dawladda Soomaaliya ay cafiso ayladiisii inay daawanayaan waxaan anigu biliif gareysanahay oo aan aaminsanahay ayba tahayba soo haddii ay jirto عفين جودو لا يفيدين كره إن عفيه هذه إن جرنا وحقشة وجرا إن شيخ نور ويران حتى أن عدي سلا تعامله وراح تدي أن كذي هذه إن عفيه كل شيء أنت صوها محمد إبراهيم راجع أو كتر سنة SNTV وحلو جود لي دقمة دركين لي السجوا عنقتي سلفت وصارنتهاي فدينا على الباب كجورجيسا وحنا وكمدها محمد إبراهيم وريال صارنا قارجة حسن حنفي مركو ديارنا شغالك على إيمان لكن أندري من هوش أوضة ما دام أو كهلية رياف قرشة waxaan ku irwaalay la saaray rag guriyaal la saarna oo kamid ah Maxamed Ibrahim Raagi hadda dhintay dilka Maxamed Ibrahim markuu dhacay daqiiqada kadib waxa uu Xasan Xanafi soo wacay Cabdiraxmaan Yuusuf Cadaala oo kamid ah mas'uuliyiinta wasaaradda warfaafinta oo uu sheegtay inay iyagu dileen Maxamed Ibrahim Raagi Raadalo waran soo fiican halkayga waran halkaygu waa maxaa ka soo galay maanta وش يسوي جلسنا يسوي قليه سلطان كلا شقيسنا إنه بكرة شقيس سلطان معه هذا شغال يدين كيدين كودن بيسمى إحنا لا تكتيه معه ده ما يدير ما أنا محمد إبراهيم راجل نرجع هو دل كيس دل كيس وجه هذا وقت تيوا يسوي خوارج تديك وخلاص الله تكلم معه وين كرتي ركبت هذا وهذا واحد يسوي علينا كفر أحسن تازومه وأكل waxaan kala qabtaa beena waxa isku soo waclay shaqadii dhanba tahay fataan teamka kale ka soo jeedo wala doqonnima idan haysa laga waad ogaataa qofka disaan qofka walaalkiisa bedeli doona iyo xaaskiisa iyo maaragtay barnaamijka dad waysitiin inuu dibidan ka haray yahay dib ka weyn ay idinka kordhi doona asaguna isoo ku dhinto asagoo muslim oo maqrib maaragtay salaad maqrib uu heesa qaato dhintay
idinkaana xisaabteedana idinka ajaabka dasho doontiin waxna idinma kordhin doonto marka weligiinba ku faana dhiigga dad ina ilaahay ugu dhawaanaya xisaabtiisa aakhira noolaa hisaadana ilaahay umaada dhawaana waa ka fogaatay mujrim ilaahay ka fogaado dhiigga dadka cabaadna taa meelna kuma gaari doonto waa arkaysaa koodhe anigu ku sheegay dhowr mar horena qodadaas iyo dakaliisa ku dambeyn doontid haddana waa kugu celinaa marlabaad jaanis kalan kusuunaa koodhe ilaahay u toobtay oo ku sheegay waxaad waata wallahi waxaan niyad adaygeedisnaa inaanan ka qaadaynin qof kasta oo meeshaan ka baxana qof walaalkiis iyo hooyadiis iyo aabihiis iyo xaaskiisa iyo ilmihiisa bedeli doona ilaa qofka idinkugu dambeeyo oo idinka dhinto oo idinka iyo kuweeda lamidka ah anaga waa shiina mujrimiina mana shahiidiin ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله ما قتل عيال عند ربي ولكن لا يشعرون قرآنك إلهي أو قفل وحا قرآن ما تغنين بالا لبقويا الذين أخرياه قرآنك إلهي أو قفل إنما قيبا يريرا لسوق قويا فسرال قلدان لذكوه الجسما قرآن ما تقرآن يدين ما تغنين أدنوا وقوانا لكن وحادو قاتا هذا واحد بدنا قال اللهم قرنا لكن قوة صوتنا والشيخ أدنوا وقو جديد محمد إبراهيم راقي يقول كوري يقول قدام بيت دونا حوق يأود راديو مقدس يأذن في كردي دونا تعالى والله ما علينا نوصل بدون ما علينا كستنا هذا الفيصل يكون عندك هذا قاعد يكون سيدي دونا تاسكو تشرب يوم من الأيام وحاسكور صندوقنا وحق سمين وحق ضد سنة سمين سنت هذا خير خوطة أنا أشرب هو من سنة هاي يوم من الأيام أذكر صدقنا صاحب ما أنكر هذا الشيء ومرق كلام قوات لنا إلهي أتوا بتكينته حتى أتوا بتكينه والله وعن آدم وحبا يعني صاحبك هاجب تفريقه مسلم كاهد إلا وضيت بكل صاحب ما قرأت لا أنا نكن عنك لا قبته صوب اللجوء اليوم ولا وهذا لكن إلهي هدوانو كوغر وأسرع نقول لك وهذا بتفيك تسكن مسلم كاهد كفانا يسوع horta col iyo cadaawo cusub oo idinku kordhin doonaa adigana meel xun oo aad ka shalayso kuula dambayn doonaa adduun iyo aakhiraba taas ogow marka anigu hadda adiga cilmiga wuxuu igu sheegtaba kuguma aqaana aniga adiga waad naqaanaa rag saaxiib ahayna isla soo shaqayn jiray laakiin waa qalloocatay meel aad u leexatay iimaankii diintii kaa xumaatay qiyaama noo balala ninkii qalloocay waaya qiyaamadaasa noo balala markii joogayo inkastoo codkan laga hayo xasan xanafi haddana markan wuu iska bari yeelay inuu wax ka ogaa dilka maxamed ibraahim raage wuxuuse sheegtay inuu ku qanacsanaa siday wax u dhaceen ibraahim raage aad weyn ugu qanacsanaa weli xataa anigu waxaan ku ogaa inuu joogay meel la Kampala oo jaamacad u aadayaan ogaa wariye nasteex daahir faarax waxa uu ahaa wakiil wareedkii BBC iyo wakaalada wararka AB waxaa lagu dilay magaalada Kismaayo waxa uu ka mid ahaa xasan xanafi xubniye ka tirsanaa al-shabaab ee wax ka abaabulay dilka nasteex daahir faarax waxaana uu sharaxayaa sababtii ay u dileen nasteex daahir faarax wakiil wareedkii BBC Kismaayo ayuu ahaa al-shabaabna goorta la dilayay waxaan u maleynayaa inaynan galin gudaha magaalada Kismaayo oo uu maamulayay kanaal barra aadan shira barhira la ciidamo taabacsan ay joogeen magaalada Kismaayo ayna toos u galin al-shabaab soo nasteex sababka lagu dilo waxay al-shabaab waxay abaabulayeen qorshihii ay ku gali lahaayeen magaalada Kismaayo ee magaalo xeebeedda ah si dekadooda dhaqaalaha ka soo galay iyo gacanta ugu soo dhacdo soo nasteexna maadaama wakiil wareed idaacad international uu yahay waxa uu tabinayo waxa ay tahay dagaalka inta uu socdo si dagaalku macluumaadda ay ugu yaraato ama lookalada bas suuriyaasha ka shaqeeya ay u tabin karaan ayaa loo dilay nasteex waxa dilna waa al-shabaab laakiin fatwada waxaa dhiibay nin la yiraahdo Ibrahim Jaamac Miicaad Ibrahim Qaan oo Abu Bakr Saylici isku magacaabi jiray xasan xanafi waxa uu sidoo kale wax ka ogaa dilkii agaasimihii Shabeelle Xasan Fantastic oo lagu dilay degmada Wadajir waxaana uu xasan sheeganayaa inuu la socdo hawshaasi ka hor intii aysan dhicin iyo kadib markii ay dhacday intaba حسن عثمان فانتاستيك أجاسمه راديو شبله إنه هايان رجينيا واحد دلي وحيا هاي الشباب مركز كورنا جروجيس إيريس أيال سوسهمي وحنا اللي هو رجليه إن الدلي دونه حسن فانتاستيك ساسو أي تهينا
xasan taasti waa la dilay wariyaal badan ayaa lagu dilay Soomaaliya waxayna ka midaysan yihiin badankood in qaabab isku eg loo dilay waana habka dhagarta ay wax u dilaan kooxda al-shabaab xasan xanafina waxa uu mas'uul uga ahaa kooxdaasi hawshaasi dilalka wariyaasha inkastoo markan uu dilalka wariyaasha badankood inkirayo iskuna muujinayo in qaybta uu ku lahaa ay ahayd oo kaliya inuu soo xaqiijiyo geeridooda waa kan isagoo markan dul istaagaya dilalka wariyaal ay ka mid yihiin yuusuf kaynaan axmed cadow canshuur maxamed maxamuud timacade cabdixareed aadan cusmaan xasan yuusuf absiga yuusuf cali cusmaan yuusuf fare iyo wariyaal kale yuusuf axmed abubakar yuusuf kaynaan goob uu dhiganayay baabuurka in xogteeda la diyaariyay lala tacaamulay dadkii ka agdhawaa goobta sidaasna ugu suura gashay in ragga ministayaasha al-shabaab ay ugu xiraan baabuurka yuusuf kaynaan hoosta goobta uu fadhiyo inuu darawal ahaa la ii sheegay ay ugu xiraan dabadeetana way fushay yuusuf markuu gurigiisa ka soo dhaqaaqay gaarigii uu soo watayna ereeda xamrooyin inay ahayd ayaa la ii sheegay goobta lagu qarxiyay macalinkii uu ahay allah raxma xasan yuusuf afsuge idaacadda maanta idaacad la yiraahdo iga dambeeyay inuu la shaqeynayo waa la ii sheegay in dadkii dilayna TV aan ka daawaday ruux axadkii dilay kamid ah xuduudii disho kamid ah oo booliis dhiigley isla booliis dhiigley inaan ku wareystay ila ahayd aad soo wareysatay xasan ninkii dilay hadayba ahayd xaqiiqo maanta caawaqabnimadiisa uu haya laakiin waxaan horena kugu sheegay kugu celinay ayu journalist ama ay wariye ku sugan muqdisho al-shabaab xaqooda waa ka xukumaya diloona uu xukumaya maalkiisa iyo naftiisana waa u banaanta yuusuf cali cusmaan yuusuf fare macalinkayga ahaa ilmo kuwiisana inaan macalin u ahaa u malaynaya ilmo kuwiisana waa isla qaar isla shaqeynaa xasan yuusuf cali cusmaan xasan carab hadda idaacadda risaale inuu joogo ama warbaahinta qarankana waa ku ogaa mar waa suuragal inuu joogo waxaasoo dhan waxaan ka ogaala ma arko laakiin waxaan aaminsanahay in al-shabaab jiray axmed cadow canshuur waxaan xasuusanayaa markii aan maqlo barnaamijka shabeelle ka baxa qubanaha shabeelle oo aad u wadi jiray waxaana rajaynayaa in lagu dilay degmada madiina sanadii 2012 xaqiiqdii umuhuba ilaa 11 meelaha mid un bay ahayd axmed cadow canshuur waxaa xaqiijinayaa inay al-shabaab dileen waxa loo dilina inay ahayd barnaamijkaas uu waday idaacadda uu ka shaqeynayo oo ay u ictiraafsan yihiin idaacad mufsidiin inay tahay anigu waxaa soo wacay axmed cadow canshuur ka hor markii la dilay kadib aan idhaahdee nin la yidhaahdo macalin daahir ciise oo 3 loo yaqaano ninkaas ayaana igu yiri ninkaas ayaan dilnay hawshiisana waa kaasaa xog ka keen dabadeeto waxaan u malaynayaa rag guriyaal ah oo adigaba aad ka mid ahayd inaan soo wacay in ay xaqiijiyeen geerida axmed cadow canshuur timacadde unfortunately shabeelle ayuu ka shaqeynayay ka hor hadda markii la dilay wuxuu shaqeynayay Universal TV shabeelle way ka soo guurtay dhismihii bakaaro xilli habeen ah oo ay soo raratay alaabkeedii iyadoo xataa qaar ka mid ah shaqaalaheedii uga soo tagtay goobta ay ku sugnaayeen kadib markii albaabada ku xireen maalmaha ka mid ah isla daahir ciise soo wacay wuxuu yiri ninkii afwan waxa soo wacay Yunis ninkii timacadda ahaa waa la kala tuuray waxaan ku raadiyay isha arinkaas soo xuraansu ugu yiri waxaan ku yiri ma idaacadii uu ku noqday wuxuu ugu yiri maya idaacadii kumuuna noqonin
idaacadda universal oo markaas ka hor al-shabaab ay iska mamnuuceen dhiigooda iyo maalkooda way banaystay calleer ayaa si toosa u yiri TV-gaas u shaqeynay ugu yiri dabeeto waxaan wacay gabadhii uu qabay Timcade waxaan ku yiri bal waran waxay tiri waa baxay cabdixaraad cusmaan aadan si ahaana isku xaafad baan ahayn saaxiibana waan ahayn shabeellana waa u shaqeynayay waana la dilay subax aroor jimca inay ahayd ayaan rajaynayaa ama subax khamiisaad midkood inay ahayd ayaan rajaynayaa soo ay dariiq cabdixaraad cusmaan aadan waxaan xaqiijinayaa in ay al-shabaab dileen sababka loo dilayna waxa uu ahaa inuu ka shaqeynayo idaacad ay iyagu aaminsan yihiin inay tahay idaacad gaalo oo ay qolo murtadiin cabdimaalig yuusuf oo ah mulkiilaha shabeelle ahna guddoomiyaha shabeelle iyagu waxaa ka dhadhacsan axad murtad inuu yahay حركات الشيطان وجهك صوحرتي حيدي لغا قادي إلى حي أرقيسيو حسدين كفك بان حسودك كلايو حجرتو ذو داشتي allaha u naxariistay wariye xasan yuusuf absuge oo ka tirsanaa idaacadda maanta ee magaalada muqdisho waxaa lagu dilay meel u dhow isgoyska Siinaay ee magaalada muqdisho xilli uu ka soo baxay howl maalmeedkiisa waxayna dilka allaha u naxariistay xasan yuusuf absuge maalin ka dambeysay qarax si wadar ah loogu dilay wariyaal iyo dad shacab ah guriga hooyooyinka ee magaalada muqdisho waxaana goobtaasi dadkii lagu dilay ka mid ahaa allah u naxariistay madaxii wararka telefishinka qaranka SNTV Liibaan Cali Nuur madaxii barnaamijyada SNTV allah u naxariistay Cabdisitaar Daahir Sabriye iyo sidoo kale agaasimihii idaacadda VOD ee maxalliga ahayd Cabdiraxmaan Yaasiin qaraxaasi iyo weerarkaasi shirqoolka ee lagu dilay xasan yuusuf absuge oo maalin kala dambeeyey waxaa intaba mas-uul ka ahaa oo sheegtay kooxda ugus ekis al-shabaab daqiiqado yar kadib markii la dilay allaha u naxariistay xasan yuusuf absuge ayuu telefoonka gacanta kula soo xiriiray xasan xanafi oo kooxda ugus ka tirsan wariye cabdiraxmaan yuusuf al-cadaala isagoo u sheeganaya dilka absuge iyo kuwii ka horreeyeyba markii allaha u naxariistay xasan absuge la dilay maalintii liibaan iyo ay dhinteen ay cabdisataar maalintii ku xigtay oo xasan absuge ay dileen ayuu soo wacay anoo barxadda wasaaradda fadhiyo markaas uu maqlay wax yar 5 daqiiqo 6 daqiiqo ka hor dhimashada xasan absuge markaas wuxuu ugu dhahay hada shalana waxaan idinku sameynay waa ogtihiin maantana waa kaasa sidaas hadalla ahoo jees ahoo maaragtay uu ku faraxsan yahay inuu dilkaas ka dambeeyo عدالة حسنا سيطة وفي عنا يورا وفي عنا الحمد لله هاي جو عالي عسيس أمسك ووضع وقورة إلى طومان هاي اللمس هذا ما حاكو دعي أيوة يعني ميت ماشي على كسر قاطع زي البعيد اللي عالي على كمين شاينا وكل اللي ذا عنا يريع بستار وفينا عناي كل يوم كنا ماشي في ميل كل يوم كل كتب بيت تمضي إلى توبة كين وياه والله مال حنا ذا قدام بيت وأنا مالنا ما تاهينا نكتب واجد وأنت مركا ديوان هي عدتنا نمن ما يكتب جايبين وتلك ولود أنت هايين قفت أنا وقت يسوق أنت لكن وحرجينا مالنا عدالة بهر ما كنت كتب واجد مالنا ما انتهينا هذا كجواب دوانكا هذه عدالتنا عدالت رجل ماشي كويدا واسركنا ان شاء الله لا تعاوات ماشي كل سياسي كل تمر قردون ان شاء الله هذا يوم جايين يا جماعه واسركنا
qoladii dambaysa meelahan waa arki doontiin dadkaas waxay u dhinteen waa naqaanaa laakiin idinkaan aqoonin waxaad u dhimateen meel xun ku dambayn doonaa marka waa isla joognaa ninkii meel xun ku dambeeya waa la arki doonaa saaxiib waa arkayna saaxiib waa arkayna haddii meel fiican waxaan ku dhimanayna aanan aqoonin idinka ha taqaaniin waxaa naga doontiin kartaan waa is arkaynaa insha allah saaxiib okay waa arki doonaa meesha ku dambaysa dilalka wariyaashu waxay cabsiya baqdin ku abuurtay saxafiyiin badan oo awoodi waaye inay sii wadaan shaqooyinkay u hayaan bulshada waxayna u carareen dalalka dariska laha Soomaaliya qaar kamida wariyaashaasi oo qaxooti ku ah Uganda ayaa ka waramaya waxa ay ka soo carareen duruufihii aan Soomaaliya uga soo baxay qof kasta oo suxufi ah ama wax garad ama aqoon-yahan ah qamidu ka dharagsan yahay dhibaatooyin iska muuqda jira dilalka wariyaasha lagu hayay kamid ahaa markii aan shaqo joojin sameynay aniga iyo rag kale oo hadda raadiyo Muqdisho jooga iyo kuwa kale oo ku sugan dalkan Uganda dilkii Hiraabe iyo afduubkii JK agaasimihi Universal iyo dhaawacii Axmed Taajir waxay ahayd dhacdo su'aal ku keentay shaqada saxaafadda dhexdhexaadka ah inay jiri karto in kale 23 bishii December 2008 ayaa ugu dambeysay magaalada Muqdisho أنا مركا وشغلني تلفزيون كعالمي يونيفرسال وفي وكلفي إن ودن ككسو على روحي هاي كذب مركي عن مري وددا مكة المكرمة دقيقة كور وأن تجحرونتنا تلفزيون كمكة سكوتي لي هوتيل كعباشة نعس الدنباء أي قارح كداعي وددا هالكاسو هوين وددا النظيفين يي وحكية $2 وعنتك بدل شاشة قاء ku shaqeynayay meeno halkaas loogu dhigay ku qarxaday ilaa in ka badan 20 haween ayaa halka ku geeriyootay kontamayana way ku dhaawacmeen halkaas ayaan warbixin ka soo tabiyay kasoo wariyaasha la dilay waxaa jiray wariyaal kale oo la dhaawacay kuwaas oo ay kamid ahaayeen wariye Maxamed Shariif wariye Muxidiin Xusni iyo wariye Xasan Matoore waxa uu Xasan ka sheekeynayaa wuxuu ka ogaa weeraradii lagu dhaawacay wariyaashan Maxamed Shariif hadda wuxuu shaqeeyaa raadiyo barkulan ayaan rajaynayaa raadiyo barkulan al-shabaab waxay aaminsan yihiin waxa ay tahay in ay leedahay ciidamada African Mission in Somalia ama AMISOM marka la soo gaabi loo yaqaano nin la yiraahdo Aadan Gaaldile ayaa soo wacay asaguna ugu yiri Maxamed Shariif iyo nin la yiraahdo nin Shabeelle asagana u shaqeynay oo hadda ugu soo warama magaalada Baydhabo magaciisa Abjool hadda ma xasuusto oo la dhaawacay asaguna oo reer Baydhabo ahaa labadaasba waxay soo wacay Aadan Gaaldile محسن حسني يا مدين حسني labadaas ban ninka leeyahay Aadan Gaaldile ayaa soo wacay diina sheeg Xasan Matoor warbaahinta qaranka ayuu u shaqeeyaa ayaan rajaynayaa wakiil wareed markaas uma shaqeynaynin laakiin hadda inuu u shaqeeyaan mar soo warar ana daawanayo TV-ga qaranka la soo deeyaan arkay asoo soo deynaya waxa xaqiiqo ah in ay al-shabaab dileen sababka ay ku dileenna waxaan ku xaqiijinayaa in ay tahay in uu murtad yahay xabada ay ugu fureen oo bistoolad xabadu waxay rabeen dhinaca wadnaha inay kaga dhuftaan ilaahay iga badbaadiyay oo naaska korkiisa kaga dhacday kadib dhulka ku dhacay markaas sidaas u fiiriyay laba cunug oo aad u tabar yar oo aday markaas labadoodaba madaxa iga xanuunay sida ay u egiyeen iyo waxa ay dabacsan yihiin ayaa markaas hal mar inaa mid kamid ah ku booda bistoolada la qabsaday adoo dhiigii gadaayo daqiiqada intaana fidhin gaariga xabadaha igu dhufan doona guriga meel banaankiisa ah yaalay yarkii macalinka wuxuu su'aalay warbalaago gaarigan ma gaarigii saaxiibaha yarka ahaydeen uu wadan jiray gaarigan fiiriyay waxa iriniyo ma gaarigan waa duug kaasina waa cusub yahay gaarigii kolle gaari aniga iraadinayo ahaa markii aan wajiga u dhameystiray aqoonsaday inaan balaag ahay wuu dhaqaaqay qadar daqiiqada ah ka bacdi anoo sheekadii ku mashquulsanaa waxaan ka war helay bareeg la igu aqabtay iyo xabad igu socota haddaan fiirshay gaariga holac qori afkiisa holaciisaan dareemay iyo dhawaqii rasaasta iyo derbigii aan fadhiyo ugu soo dumaaya xabadka ma tagaanahay xaadis xuufiyaanahay xadna kama baqaanahay xikmad ururiyaanahay xoqayntii warkaanahay xabadka ma tagaanahay حاضر صحوفي أنا هاي حتى
kama baqaanahay xikmad ururiyaanahay xoghayntii wadaanahay tacadiyada ay warbaahintu ku hayaan al-shabaab kuma eka oo keliya dilalka wariyaasha ee waxay sidoo kale xoog ku qaateen qaar ka mida qalabka ay ku shaqaynayeen idaacadaha muqdisho sida IQK Soomaali Weyn Horn Africa Capital Voice BBC Warsan Baydhabo iyo idaacado kale oo ku yaala gobolada dalka waxaana xasan xanafi oo ka mid ahaa xubnihii al-shabaab ay u soo direen in idaacadahan ay bililqaystaan xaqiiqiyan anu waxaan u hayaa idaacadda ah Horn Africa warbaahinta Horn Africa Capital iyo Horn Africa isku wadatay iyo idaacadda Soomaali Weyn waxaa kaloo hubaa inay jirto idaacad ku taalay Sanca iyo Radio Banaadir isgoyska Sanca iyo Radio Banaadir inta ka dhaxeeyda oo laga qaatay alaab ay ka tagtay markaas idaacad ka guurtay meesha oo Maxamed Carab oo hadda Yurub inuu jiro la ii sheegay uu ka shaqeynayay idaacaddu ajwal magaceeda si rasmi ah uma hayo idaacadaasna qalab ay ka tagtay oo u badnaa qalab xafiiseed in ay qaadatay lagu dayactiray Radio Andalus Ceelbuur ayaan hubaa xaruntii labaad oo markaas xaruntii saddexaad bay labaad ay saddexaad oo Ceelbuur laga dhigay lagu dayactiray laguna furay ismihii ameelada FMT Soomaali Weyn laga qaatay BBC-na fatwo ayaa lagu qaatay si guud fatwo soo baxday oo badana uu soo bixiyay amarkiisa lagu qaatay ay xarumo badan ay BBC-du lahayd حتى حرنتي دنبو ودن بيسي وحن قد بتقني ماشي لنا مقالة بلاتوين حرنتا قبل كهيران وقد بتقني وحتى رجال لوح الحرير لأجل جيد دبديتنا وان حلا markii ay dhacday intaasoo bililqa ah waxay idaacadaha qaarkood bilaabeen inay si dhuumaalaysi ah kaga soo guuraan goobaha ay al-shabaab ka talinayeen waxaana ka mid ahaa idaacadihii sida dhuumaalaysiga ku soo guuray idaacadda Shabeelle ee Muqdisho maalmaha ka mid ah ayaa waxay soo wacay ninkan maanta gacanta amniga ku jira Xanafi wuxuu yiri waxaan fadhiyaa gooro baar bulsho ay igu imaad baar bulshona waxay ahayd xaruntii Shabeelle degantahay markaas maqaayad u dhaweeyay ahayd waan u tagay oo amarka laba diidi karin asagoo qol dhex fadhiya oo TV-ga Al Jazeera fiirsanaya oo aad u qabto inuu TV-ga shaashada madaxa la sii gelayo markaan u imidna wuxuu ugu yiri hadii alla ku roon yahay maanta waxaan dhageystay warkiina idaacadda gabadha akhrinaysay gooro waad ogtahay in gabdhaha codkooda uu dambi yahay marka waxaan rabaa inaad joojisiin hadii alla ku roon yahay gabdhaha wararka akhriya marka uu sidaas leeyahay wuxuu fiirsanayaa gabar hadii alla ku roon TV aan rabin hadda inaan magaciisa sheego warka akhrinaysa oo makarafoonku meesha uu xiran yahay qaybta kore xabadkeedu uu muuqdo madaxeeda iyo jirkeeda kalena uu bannaan yahay oo warka akhrinaysa TV ayuu fiirsanayaa oo TV-yada afka Carabiga ku hadla kamida aniga hal maran carooday nin fiirsanaya gabar qaawan oo war akhrinaysa mid uu codkeeda maqlana igu haysta waxaan iri gabadha Carbeeda cawradeeda banaysa waa adiga calmaday oo TV-ga caasha galiye ma Soomaalida la colowdo codkooda ku dhibay wuxuu yiri risaaladii xambaarsantahay rabaa maahan anu codkeeda muuqaalkeeda dan kamali midda aad dhageysatay risaaladeeda qaadaan iridana waa ka baxay markaan baxay xarunteydii aan tagay ayuu ii soo dhacay teleefankiisu wuxuu ugu yiri intaad iga soo maqnaad mujaahidiintu waa ka tashadeen go'aanna waa laga gaaray berri 6 saac ayuu waqtiga ku egi waxaan ku yiri ilaahay adoomada shasha waa ka qariyay yaa ku siiyay awood adigu aad ku ogaatay marka maalintaas ayaa waxaan go'aan ku qaatay inaan ka guuro hadii alla ku roon yahay Bakaaraha 3 bilood ayaan dib u sii deganay hase yeeshee 3 bilood maalin bashaa ayaan qaadayay dadku waxay u maleeyaan idaacadaas inay hal habeen soo guurtay ma soo guuray hal habeen muddo 3 bilood ayaan maalinba hal shay qaaday habeenkii u dambeeyay intuu dambeysay oo hadii alla ku roon yahay maksarkii iyo FM-kii iyo firdhisadii iyo inta hawada ku jirtay baa soo qaaday maahane wax kale oo alaabuhu ma isaaleen markaas iyadoona tallaabada ay Shabeelle ku soo guurtay ay carab ku abuurtay horjoogayaasha al-shabaab waa kan Axmed Cali Gees oo kamid ahaa horjoogayaashii waqtigaasi al-shabaab oo diinta ka saaray Shabeelle iyo shaqaalaheeda xilli uu telefoon u soo diray Abwaan Guure oo waqtigaasi ahaa agaasimihii Shabeelle qofku anigu wuxuu aan raaykiisa ku arkaan ku xukumaa
ma ku degdego waxaan ku leeyahay murtadiinaad tihiin waa noo dagaal waxaad riddadaan dhinacaas ka marteen sidii riddada idaacadda riddada ugu socda dhexdhexaadna ma aydin ninka bakaara ka caradaa tahay murtadaa tahay munaafaqa oo saariqa hata anaa kugu xukumay dhulkii muslimkaad isku aamini weyday xeradii gaaladaad gashay oo aadan idaacad dhexdhexaadeen sida idaacadda riddada inaad u shaqaynaydo waa ilaahay xamdigiis waaye yaa ayuha aladiina aamanuu in tudiicu aladiina kafaruu yaruduukum calaa caqaabikum fatanqalibuu khasiriina gaalaad adeecday muslimkiina waad ka carartay midda labaad waman yatawallow minkum fa innahu minhum taasaad ku ridowdeen labada mata saddexa fa xukma aljaahiliyati yabquuna waman axsanu xukman liqawmin yuuqinuuna xukun daaquud ah oo cilmaani ah ayaad hoos gashay kii muslimkana waa ka carartay yaab leeyahay barka xasan cali gees waan aqeenay haddii alla ku roon yahay weliba markaas ka hor wuxuu iska dhigi jiray odayaashii midnimada beelaha hawiye inuu ka mid yahay marka hal mar unbuu isbedelay oo ninkii waxaan aragnay haddii alla ku roon yahay maalin kastaba warkii idaacadda ka baxataa duubayo idaacaddii dhitigaraynayo haddii alla ku roon yahay dhegaysanayo saacad noo soo wacayo dhahayo warkaan aad hadda sheegteen sidaasaa loo qaadan karaa war sidii loo qaadan kara iska dhaafa ma yahay marka ninkii hal mar uu isbedelay oo aad u qabto haddii alla ku roon yahay wakiil idaacadaha loo xil saaray iyo kontaroolka iyo waxa ka baxaya ayaan aragnay hanjabaadihiisu ay xad dhaafeen oo xataa isku daya xataa haddii alla ku roon yahay marar badan uu noo soo diray kuwii wax dilayo ilaahay naga badbaadiyey marka sidaasay ahayd joogtay ahayd ilaa aakhirkii si warkoodu uu dhammaado oo xiriirkeenu toos ugu dhammaado aan gaaro inaan idhaahdo wax kastoo amar ahoo ay soo saareen maanta wixii ka dambeeya waa joojinay maalintaas ayaan ammaan ka helay intii ka horeysay hanjabaada iyo digdigta iyo dhaarta iyo weerarkuba joogtay ahaayeen kooxda xusbul islaam iyo al-shabaab oo afkaar ahaan iska agdhowaa ayaa mamnuucay inay idaacadaha sii daayaan shanqaraha astaamaha u ah idaacadaha iyo suugaanta soomaalida waxayna taa beddelkeeda amreen in idaacaduhu ay baahiyaan nashiidooyin carabi ah dhammaan idaacadaha maxalliga ahna amarkaasi u hoggaansameen marka laga reebo raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya marka saxaafadda waxaan amraynaa ama faraynaa amar cadna aan ku bixinaynaa laga bilaabo 10 beri asiihina maanta laga bilaabo 10 beri 10kaas beri wixii ka dambeeyo idaacadaha waxaan rabnaa muustika iyo hees waxa la yiraahdo inaysan sii deynin muustika iyo hees waxa la yiraahdo inaysan sii deynin waa ognahay idaacado badan oo banaanka joogana aad u carood doonaan oo reer galbeedka oo aad u carood doonaan waa ognahay galabta laga bilaabo beri laga bilaabo idaacado badan qaali doona saxaafadii ayaa la curyaamay doona marka curyaamiis maahan muustikadaas iyo heesaas islaamka kamid maahan marka waxaan rabnaa waxyaalaha wanaagsan oo khayrka inay sii deyseen tobankaas beri waxa ay siiyayno ma ahna macna munkar isla saaca in la suuliyo waaye laakiin anjalooyinka iyo wixii isku dhex qasnaa inaa kala saaratiin rabna laakiin markii la soo gaaray maalmihii xorriyadda Soomaaliya ayay haddana mar kale amar ku bixiyeen kooxahaasu inaan la maamuusi karin lagana hadli karin taariikhda maalmahaas waxayna arrintaasi u cuntami weysay agaasimihii wakhtigaas ee Shabeelle oo ah hadda agaasimaha idaacadda kulmiye Abwaan Cismaan Cabdullaahi Guure oo amray idaacaddii agaasimaha ka ahaa in la saaro heesaha xorriyadda go-aanka hore lagu joojiyey astaamaha idaacadda iyo wax dhanna asaga ayuu ka soo baxay marka go-aankii ku qaraara ayaa shala ka soo baxay oo ahay lama xusi karo kowda luuliya ama lama sheegi karo ama lama soo hadal qaadi karo midaas oo aan u aragnay mid lagu inkirayo jiritaanka Soomaalida annaguna waxaan nahay saxaafad madax bannaan oo u shaqeysa ummadda Soomaaliyeed sidaa darteed waxaan u aragnay go-aankaas inuusan ahayn mid la fuli karo marka qof aad go-aankiisii fuli weysana kiisii hore ma fuli kartid sidaa darteed go-aamadii ka soo baxay macalaxaasha oo aan u aragno kuwo keligii asaga ku kooban inay yihiin waxaan garanay inaanaan fuli karin dhammaantood dhammaan maamul iyo shaqaalaba inta joogta Shabeelle waa ay ku faraxsan tahay go-aanka aan qaadan waa maalin muran iyo عن
xasan waxa uu sidoo kale ahaa tibaftiro qarsoon oo warbaahinta muqdisho ay lahayd waxaana uu ku maamulayay idaacadaha maxalliga cagajuglayn joogtaa oo ay barbar socotay inuu qaarajiyo kii ka madax adeyga cagajuglayntaas waxa uu sidoo kale xasan xanafi ku soo xiri jiray idaacadaha goobjoogayaal ka warbixiya meelaha ay wax ka dhacayaan kuwaasoo ka mid ah maleeshiyaadkooda oo iska dhigaya shacab ka agdhow goobtaasi anigu waxa aan sameeyey adigu oo wariya waxa u baahan tahay cid aniga iyo madax bannaan oo ku xaqiijiso waa heli kartaa in fulaan kale ereydii wax aan ka samaynay jooga inaad la xiriirtid waxa uu kuu sheegi karaa xaqiiqda jirta laakiin anigu qof aan rabo waxaa laga yaabaa inuu askari uu yahay askari al-shabaab uu yahay laga yaabaa waxaa laga yaabaa in xafiisyadooda ka shaqeeya inuu yahay laga yaabaa waxaa laga yaabaa qof taageersan mabda'ooda inuu yahay laga yaabaa ayaan kugu soo xirayaa qofkaas waxa uu kuu sheegayaa waxa aniga aan rabo dadka marka aad idaacadaha ku xiri jirteen waa dad adinkeeda ka tagtay aad weyn waa lagu baraarugsan yahay runtii waa lay sheegay hay'adaha nabadgelyada oo kale akhbaaraadka aan ka helay waxaa ka mid ah in xogaha laga helay ay ka mid yihiin inuu yidhi maaragtay marka warbaahinta gaarka loo leeyahay qaar ka mida waxaan ku khasabnaa wararka ay sii daynayaan waa u tafatirnaa dadka soo wacaya ee ay codka u furayaan qaarkood baanu ku leenahay influence oo u magacownaa arrintaasi runtii haddee waa ficilada ay doonayaan dadkan nabaddiidka inay ku jahwareeriyaan ummadda soomaaliyeed horta waa ay dhacday oo xataa waxaa jiray kuwa ay iyagu leeyihiin oo ay annaga wariyaal nooga dhigeen xataa dhacday oo waxaa dhacay haddii alla kore berigii lala dagaalamayay haddii alla kore yahay muqdisho dagaalku ka socday wiil tooshow la yidhaaho wariye ahoo hadda ayaga ka mida wuxuu noo ahay goobjoogo wararka laga qaato oo jidka warshadaha iyo aagaas wixii ka dhaca haddii alla kure noo soo sheego ilaa aan kadib ogaanay inuu yahay haddii alla kure xigan ayaga ka mid ahoo u shaqeeya marka kadibna uuba noqdayba wariye toosoo warbaahintooda ka shaqeey marka waa ay dhacdaa waana joogto weliba waxaa dhaca ayadoo wax dhicin inta lagu soo waco lagu yidhaahdo meeshaas iyo meeshaasaa wax ka dhaceen lagana yaabo meeshaas hal bumbo in lagu tuuray oo hal qof oo lagu dhuftay iyo wax ku dhinta midna aysan jirin marka ayadoon dhicin mararka qaar in lagu soo wargeliyaa dhici jirtay waxaa intii aan ku jirnay diyaarinta barnaamijkan holnay codod fara badan oo xasan xanafi marxalado kala duwan ugu hanjabayay wariyaal gudanaya waajibaadkooda shaqo waa kan mid ka mid ah cododka hanjabaadda ee laga duubay xasan xanafi isagoo wariye u sheegaya inuu dirqi kaga fakaday xilli ay dili rabeen maalinkii hormuud oo xamarweyne aa dirqi ku fakatay mardaba insha allah ma fakanaysnina ma aha xasan xanafi oo ku jira gacanta nisa waxaan u helnay wakhti badan oo aan kula sheekayso waxaana xasan intii aan la joogay waxyaabaha iga fajiciya ka mid ahaa inuu i weydiistay sigaar waxaana uga qaaday qof iga agdhowa markaasi bal si aan u ogaado waxa uu ku samaynayo wuxuuna shitay xasan xabad sigaar beensal ah isagoo qiiq badan ka daynaya afka iyo sanka kooxda ugus ee kis al-shabaab horjoogayaashoodu waxay ku nool yihiin nolol cabsi iyo argagax leh waxayna cabsida ugu badan ka qabaan sirdoonka soomaaliya ee nisa waa kan xasan xanafi oo sharaxaya cabsida iyo walwalka ay nisa ku hayso horjoogayaashiyo maleeshiyaadka kooxda ugus dhexdooda xogta rasmiga ah ee aan hayaa waxa ay tahay waxaan ku raahdaa maanta nabsuudda ama hay'adda nisa sirdoonka nabsuudda qaranka culayska ay ku hayso al-shabaab culays la soo koobi kara ma aha meeshaan aan ku jiraan ka dareemiyay culayska lagu hayo al-shabaab waxaan ku arkay rag xildhibaano soo dilay halkaanaan ku arkay oo la soo qabtay rag maxaan ku raahdaa dad soo dilay ama gudoomiye waaxeed soo dilay ama dad dowlad kamid soo dilay halkaanaan ku arkay rag miinooyinka u qaabilsanaa jira al-shabaab waa igaga soo horreeyeen halkaanaan ugu imdanay soo ay dariiq maanta shabaab mise waxa ay ku hayso culays ugu weyn ma jiro sidaasi la mida warbaahinta qaranka waxay iyana ku noqotay utun kooxdaasi ugus waana tan keentay in loo ciqaabo horjoogihii codkiisa laga maqlo warbaahinta qaranka oo inta badan raadisa codadka horjoogayaashiyo maleeshiyaadka kooxda ugus xasan xanafi oo ka mid ah horjoogayaal ka tirsanaa kooxda ugus oo tiro ka dhowr jeer ay codad ka qabatay warbaahinta qaranka ayaa sharaxaya xaaladaasu dareenka ay ka dhex abuurtay kooxda ugus iyo isaga lafahantiisa dhibaatooyinkii ka soo wajahay
wallaahi naxdin uma dhinno qof al-shabaab ah in cod dowladdu ay warbaahinteeda ku qabato naxdin uma dhinno waxa uu ka naxayna codkiisa ma aha waxa uu ka naxay waa culays la saarayo way codkaada lagaga qabtay codad badan in ay iga qabato waa ogahay si saaxiibtinimo iyo si guud dad badan soo wacayna codad badan ay iga qabteen waa xasuusanahay culayska al-shabaab aan kala kulmayay wax inta ku yaala ma ahayn ziyaadaan kala kulmayay heer godone anoo joogo guud oo soo waco oo yiraahdo inuu soo marax fiiskiisa oo yiraahdo ha yimaado shabeellada hoose shir goona oo leeyahay wayniyo xasan xanafi intii aan la joogay waxaan ku arkay isbeddel dhinaca muuqaalkiisa ku yimid markii ugu dambaysay wakhtigii uu ahaa saxafi ka shaqeeya magaalada muqdisho waxaa xasan hadda ka muuqanayay dhaawacyo kuwaas oo sida la rumaysan yahay ka soo gaaray dagaallo dhowra oo ka dhacay magaalada muqdisho waxaan isaga lafahaantiisa weydiiyey xasan dhaawaca ugu ballaaran ee wejigiisa ka muuqda wakhtiga uu gaaray iyo sida uu dhacay dhaawacan wuxuu u gaaray insaan qiyaasay sanadkii 2011 markii ciidamada Burundi ay damcayeen inay dayni la galaan kuwii gulid jalsiyaad ka dhaqaaqay Burundi faraha badan maxaan ku raadaa isha lagu leeynay ayaan maxaan ku raadaa isha oo gaaray hoobi inuu ahaayaan rajeynaya oo aan aaminsanahay hoobiyahaas aan ugu dhacay koox yar oo dacayadu sameeya al-shabaab waxay ku naqdiyaan waraysiyada aan qaado inay yihiin kuwa lagu qasbo dadka aan waraysanayo oo loo geyso jirdil iyo wixii la mid ah waxaan haddaba hordhigay xasan xanafi in lagu qasbay waraysigan uu siinayo iyo inay jirto jirdil loo geystay si uu sheegto waxaan jirin halkaa qol number 4 la yiraahdo room 4 la yiraahdo ka deganahay waa la soo baxay waxa isdhaafsanan inayna jirin marka laga reebo in qorshuhu uu yahay sida tan ha iyo may toonana maxaan ku raadaa ii sheeg ma dhihin ha baan soo irin may toonana soo maanan oran soo jirdil wax la yiraahdo ma geysan mana la geysan doosan dhalinyartu waxaan u sheegayaa meeshu saad u moodin ma ahaanay si u taala ila arko yoonis waa magac afgarashaha oo ay kooxda al-shabaab u yaqaanaan waana shakhsiga bedelay xasan xanafi marka uu ku fashilmay wariyaasha yoonis wariyaashu ma aqoon ka hor dilkii Siciid Tahliil laakiin markii la dilay Siciid ay wariyaashu sas ka qaadeen xasan ayay kooxdu yoonis u xil saartay inuu la macaamilo warbaahinta haddaba yoonis waa kuma sirdoonka Soomaaliya ayaa intii aan ku jiray diyaarinta barnaamijkan igu caawiyay sawirka yoonis oo aan horey loo hayn waxaana markiiba aan tusay sawirkaasi xasan xanafi oo aan weydiiyey inuu yaqaan iyo in kale wuxuuna xasan xanafi ku jawaabay yoonis si fiican u qala yoonis waxa weeyaan hadda anigu noola ii dhintay ma kala garanayo laakiin markii war dambeeyay galgaduud uu joogay ceelbuur uu joogay dabadeed galhareeri uu joogay qoryoolayo mar yimid aan isku aragnay intaanan bixin ka hor maxaan ku raadaa isha soo sii socda galgaduud yoonis hadda waxa weeyaan mas'uulka meeshii aan joogo shalay xiriirka al-shabaab iyo warbaahinta u dhaxeeya ama maxalliga ama international aadaan ama kuwada ha ahaadaan maxaan ku raadaa isha mas'uulkooda weeyaan asoo naa'ibka ama ku-xigeenka maktabka iclaamka amiirkooda ah yoonis markii uu la wareegay xafiiska warbaahinta al-shabaab waxa uu bilaabay isna in sidii xasan uu wariyaasha handado waxaana ka mid ahaa wariyaashii u hanjabay allah u naxariistay liibaan cali nuur oo markaasi ka shaqaynayay idaacadda maxalliga Simba laakiin markii dambe cabsi uu ka qabo yoonis ugu soo biiray warbaahinta qaranka waxaana yoonis iyo liibaan dhex maray sheekadan halo yoonis niyo noo sheeg arrintan waxaan rabnaa inaan wax ka sheegne ana wax way sheegnaa daawno ya daawno ku kaxsanaysaa maxaa dhacay waxaan ku weydiiyey xal markaa wareysanayay maxaa la ii sheeg qeylo afrika ku handilay ma aniga wuxuu igu handida afrika iska quseeya idaacad la magac idaacad la macnaha ii sheeg wax loo sheegay oo xisbul islaam sheegeen iyo jubbooyin maxaa iska quseeya niyo yoonis oo anaga dhan si kala noocay taa saaxiibo والله بداية أدني والله اللي بس فكرك وأركع أنا بمكو كوكو شيء. عايز أفريقيا وماسين اللي في فيسا هذي عدو جيسا مغلان جيده كبحان كان هذا جيس هذي مغلان جيده يكبحان وعدم بدان أدو ماسين.
dowladda Soomaaliya waxa ay dul saartay madaxiisa horjooga Yunis adduun dhan $30,000 cidii keenta macluumaad ku aadan sidii loo soo qaban lahaa horjoogahaas Yunis oo wixii ka dambeeyay Xasan Xanafi isagu mas'uul ka ah dilalka wariyaal ay ugu dambeysay Allah u naxariistay marxuumad Hindiye Xaaji Maxamed oo dabayaaqadii sanadkii tagay ay qarax gaarigeeda ugu xireen kooxda ugus kuwaas oo dadkii fuliyay ay ku jiraan gacanta nisa hase yeeshee maskaxda ka dambaysa wariye la dilo wixii ka dambeeyay markii Xasan Xanafi uu shaqadaasi ka wareegay waxaa kooxda ugu xilsaarnaa Yunis oo hadda ay dowladda Soomaaliya abaalmarin lacageed oo $30,000 gaaraysa ku bixinayso soo qabashadiisa. wixii waqtigaasi ka dambeeyay Liibaan Cali Nuur wuxuu ku soo biiray SNTV oo ka noqday madaxa wararka iyadoona aakhirkii Al-Shabaab ay ku dileen maqaayadda hooyooyinka. Xasan Xanafi Xaaji waxa uu muddo ka mid ahaa kooxda Al-Shabaab waxaan weydiiyey maalinna intuu ka mid ahaa kooxdaasi inuu ku fakeray inuu isqarxiyeen kale. hadda ka hor may hadda kadibna may xasan shalay uu ku qanacsanaa ka mid ahaanshihiisa kooxda Al-Shabaab isagoo aan la qasbin ayuuna muddo u qabanayay hawlo kala duwan kooxdaasi laakiin maanta wuxuu ku doodayaa inuu ka qoomameynayo noloshiisii Al-Shabaab markii aan xasuusto noloshii waxaan ku raadaa ii sheeg Al-Shabaab runtii wax la soo koobi karo ma sida aan noqonay waa isbedelaya magacaas kaliya aan xasuusta xataa isku bedelaya qanaacad guudna actually si dhab ah ma jirto wax xaqiiqiyan ah oo qanaacad ah oo aan ku qabto ma jirto aan ku raadaa ii sheeg Al-Shabaab runtii wax la soo koobi karo ma sida aan noqonay waa isbedelaya magacaas kaliya aan xasuusta xataa isku bedelaya qanaacad guudna actually si dhab ah ma jirto wax xaqiiqiyan ah oo qanaacad ah oo aan ku qabto ma jirto. Xasan Xanafi oo ay sirdoonka Soomaaliya nisa ka soo qabteen xadka Soomaaliya Kenya ay wadaagaan xilli uu doonayay inuu gudaha Kenya galo ayaa warar soo baxay waxa ay sheegayeen inuu waqtigaasi doonayay inuu u socdaalo qaar ka mid ah wadamada Yurub ama Ameerika. Yurub ayaan u sii socday leejdigeedina u socday dad ayaa dhahay visa waxaan haynaa Mexico oo Yurub oo Mareykanka ah dad waxay dhahayeen visa waxaan Ukraine oo Yurub saas loogu galayo Germany iyo Poland iyo wadamada xuduudda leh taas loogu galayo dad bas si aragtidooda dhiibay laakiin anigu qaasatan waxaan rabay Jarmalka inaan aado ama Ingiriiska inaan aado labadaas mid baa ii qorshaysnay. Xasan Xanafi oo 32 jir waxa uu hadda ku jira gacanta nisa wuxuuna jeclaan lahaa in la cafiyo aan loo maxkamadeyn dambiyadii uu geystay. waxaan codsan lahaa dowladda Soomaaliya waxaan ku raadaa ii sheeg gacanteeda hadda ku jira shalay waxaan ka aaminsanaa si inaan aaminsanahay waa u sheegay waxaan ku raadaa ii sheeg bal haddii la fiirinayo xalka buugan xariista in la fiiriyo insha Allah laakiin wariyaashu saaxiibadood dilay iyo helada dadkii uu dilay ayaa ku adkaysanaya inay arkaan Xasan Xanafi oo la hor keenay cadaalad. wallahi waxay ila tahay Xasan waxa uu dadkan iyo dalkan u geystay isagoo qof ah wax aad u weyn weeyaan dhibaato aad u weyn weeyaan waxa la helayaa maanta wax ku dhow 100 caruur oo Xasan khiyaanooyinkii dambiyadii uu mareegay u agoontooday waxa qabriga ugu jira dad ka qiimo badnaa isaga oo soodomeeyo ku dhow oo nuucyo kala duwan ahaa waxa uu sabab u noqday in wadankan ay ka qaxaan dad ka badan 100 qof oo saxafiyiin anigu marka aragtida qof ahaaneed waxay tahay Xasan wuxuu mudan yahay waxa cadaaladdu ay qabto inuu maro oo cadaaladda la marsiiyo waxaan si caada markaan u ogaa inuu ka dambeeyay dilka la naxariista Abi Saciid Axmed sanadii 2009 bishii labaad afarteeda oo aan arbacaha ku beegneed saacaduna ay 7:00 doornimo marka hadda waqtigan waqti uu afis dal badan ma aha anigu waxaan qabaa oo saxafiyiinta Soomaaliyeed ay qabaan in sharciga la marsiiyo oo lagu xukumo dil toogasho si ay ugu waan qaataan kuwa kale dhagar qabayaasha wallahi kullee Xasan Xanafi aniga waxaan codsan lahaa wixii uu xaq u leeyahay oo maaragtay
maxkamaday ku xukunto oo dembigu galay ah in laga jaasiyo kulli aniga taas ila tahay sababtoo waxay tahay xasan dembi aan yareen uu galay qof walbana dembigu galay inuu maaragtay ciqaabteeda u helo wax meesha ku jira waxaanan codsanayaa oo aan in badan codsanayaa haddii alla koron yahay in la mariyo abaalkiisa oo dembigii uu galay oo ciqaabtiisa maro sababtoo ah waa dilaa laayay dad badan marka weliba waxaan ku tali lahay inaan hal mar la dilin la dilo haddii alla koron yahay maalmo badan in la dilo ayaan ku tali lahay marka sharciga in la hor keeno waxaan qabaa in cadaaladda la mariyo haddii wax ku cadaadaan ninkaas wasiirka wasaaradda warfaafinta maxamed cabdi xayir maareeye ayaa ku dhawaaqay in dowladda Soomaaliya ay u diyaarinayso Xasan Xanafi inay horgeyso cadaaladda si loogu ciqaabo dunuubtii uu geystay Xasan Xanafi waxa la horgeynaya cadaaladda dilalka badan ee uu geystay wuxuu ka tirsan yahay ururada nabadiidka ayuu ka tirsan yahay al-shabaab iyo al-qaacida ka tirsan yahay qofkii aan isi soo dhiibin isaga oo aan dembi gacanta kula jirin oo lagu qabto qaabka Xasan Xanafi oo kale isaga oo ku dhex jira dembiyadii oo intaas oo qof dilayna sharciga dawladda uga yaala waa in la horgeeyo sharciga oo ciqaabta uu mudan yahay la marsiyo marka isaga iyo kuwa kale gacan ku dhiglayaasha ka dambeeyay ficilkii ugu dambeeyay hadda liida ka dhacay ee aad arkaysid sida loogu xasuuqay dadka shacabka caruurta maatada qoysaska dad aroosa wuxuu ka tirsan yahay Xasan Xanafi maragtay urur argagixisa oo aan naxariis lahayn oo dadka Soomaaliyeed diintooda iyo sharafkooda iyo dhiigooda banaystay marka waxa la marsiin doonaa ciqaabta uu mudan yahay wasiirka amniga gudaha xukuumadda Soomaaliya mudane Cabdirasaaq Cumar Maxamed ayaa sheegay in ciidamada qalabka sida Soomaaliya ay waqti kasta heegan ugu jiraan ilaalinta amniga guud ee qaranka waxaan kormeer guud ku soo marnay magaalada Xamar dhamaanteed meel walba aan soo tagnayna waxa heegan ka ahaa ciidamada qalabka sida waxaan soo aragnay shacabkii oo diyaar u ah inay dawladda la shaqeeyaan amniga ay wax ka sugaan heegankaas ayaan lagu jirayaa ciidamada amnigu waa inay hawshooda qabtaan oo ay la dagaalamaan cid walba oo qalalaaso ama wixii criminality activities ama falal dambiyeed cidii wado inay la dagaalamaan waxa kale oo aan rabnaa in shacabka iyo ciidamada amniga ay si fiican u wada shaqeeyaan dhinaca kale waxay hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed NISA markii ugu horeysay soo saartay awaamiir ku aadan la xiriirida iyo macaamilka maleeshiyaadka kooxda ugus ee kisal shabaab war ka soo baxay NISA waxaa lagu sheegay in muwaadinkii lagu helo inuu telefoon kula xiriiray qof ka tirsan kooxda ugus inay tahay dembi loo ciqaabayo sidoo kale waxaa iyaduna dembi ah in lacag loo qabto ama loo kala gudbiyo kooxda ugus waxaa sidoo kale iyaduna dembi qaran ah in macaamil dhinac ganacsi ah lala yeesho cid ka tirsan kooxda ugus ee kisal shabaab inkastoo dadkeenu dulmiga uu ka simayo dooxatadu xasuuqaan haddana waxa u sii daran duulkaan habaaranay saxaafadda ma daayaan warbaahintuna ma daayaan dabley aan la garan baa saaka wariye dilay oo duugtiisa joognaa dadaalka iyo hawshana kama daali doonee dadweynuhu ogsoonow shacabkuna ma daayaan waayaaba yaa dilay maxaa wariye loo dilay ma la helay kuwii dilay hay-adaha duniduna u dulqaadan mayno iyo cambaarayn ma daayaan guud ahaan barnaamijkeennii dilaaga wariyaha oo uu ii farsameeyey kaameradana ii hayay saaxiibkay Moho Caraye waa naga intaa tan iyo intaan barnaamij midkan lamida ku kulmayno nabaadiin iyo nooli kulanto. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.